State Media Network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid xisbiga hay'adda talada Somaliland ee kulmiye oo ka dalbaday hay'adaha sharci dejinta iyo cadaaladda in ay tallaabo ka qaadaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo bilowday dhaqangelinta hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaare Khayre ee arrimaha doorashooyinka iyo xisbiga nabad iyo nolol oo markii ugu horeysay isdiiwaan galiyay shirkad laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo ku fashilantay shidaal baaris ay ka samaysay deegaanada Somaliland. dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo soo daadisay diyaarado dagaal oo lagu soo weeraray dalkeeda. hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka digay qorshe ay wadaan ee Cabdi Ilay iyo xanuunka COVID-19 oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka Shiinaha iyo kiisaskii ugu badnaa oo laga diiwaan galiyay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shatiga duulimaadka ee ay ku imaan jireen wadanka Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo laga leeyahay wadanka Kenya. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku eedeysay mid ka mid ah labadaasi shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Air Services in ay diyaarad ay leedahay ay si sharci darro qaad ku soo galisay gudaha Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dhinaca duulimaadka sabab la xiriirta safmarka COVID-19. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26 bishii May shixnad qaada geysay magaalada Buuhoodle iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay sido gargaar caafimaad oo lagu caawinayo dadka uu soo ritay COVID-19 iyadoo sidaasi si la mid ah dowladda Soomaaliya ay shatiga duulimaadka ay ku imaan jirtay Soomaaliya ay kala noqotay shirkadda lagu magacaabo Silver Stone Air Services oo iyadana sidoo kale lagu eedeeyay in ay qaad sharci darro ah soo galisay gudaha wadanka Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladdu ee COVID-19. waxaana sidoo kale dowladdu ay intaasi ku dartay in diyaaradani labaad ee laga leeyahay wadanka Kenya ay 31 ka degtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay geysay shixnad qaada iyadoo hawada Soomaaliya sidoo kale ku soo gashay inay sido gargaar caafimaad. waxaana dowladda Soomaaliya ay u sababaysay kala noqoshada shatigaasi ee diyaaradaha labadaasi shirkadood inay xadgudub ku sameeyeen xayiraadihii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya isla markaana badeecada qaadka oo laga joojiyay dalka ay ku soo galiyeen si sharci darro. dowladda Kenya oo iyadu iskale shirkadahan laga mamnuucay dalka Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha shatiga lagala noqday ayaan wali wax hadal ka soo saarin talaabadan ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay dalka uga mamnuucday qaar ka mid ah shirkadaha dalka Kenya ee ka macaashi jiray duulimaadka ay ku yimaadaan gudaha wadanka Soomaaliya. waxaana la filayaa in arintani ay noqoto mid sare u sii qaada khilaafka horeyba uga dhex jiray dalalka Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku qotomay qayb ka mid ah biyaha wadanka Soomaaliya oo ay dowladda Kenya doonayso inay boobto isla markaana dowladda Soomaaliya ay horgeysay maxkamadda cadliga ee ICJ. mana ahan markii ugu horeysay ee duulimaadyada Kenya lagu eedeeyo in ay falal xadgudub ka geysteen hawada wadanka Soomaaliya iyagoo kol horena ku xadgudbay xayiraad ay dowladda Soomaaliya saartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii duulimaadyada Kenya iskaga kala goosheen xarunta wadankaasi ee Nairobi iyo sidoo kale magaalada Kismaayo. xisbiga muxaafidka kulmiye ee hay'adda talada Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadleen dareenkooda iyo sida ay u arkaan hadalkii dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbi mucaaridka Somaliland ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe kaasi oo hadal guux badan dhaliyay oo wax kaga sheegay siyaasiyiinta beel ka mid ah beelaha Somaliland iyadoo xisbiga kulmiyana uu hadalada Faysal Cali Waraabe ku tilmaamay kuwa meel ka dhaca isla markaana waxa laga yeelayo iyo talaabada laga qaadayaba ay u yaalaan hay'adaha sharci dejinta iyo cadaaladda ee Somaliland. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muxaafidka kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo saxaafaddu wax ka weydiisay sida ay xisbi ahaan u arkaan
hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay hadalkaasi u arkaan mid gaf ku ah beelaha Soomaaliland iyo sidoo kale qarannimada isla markaana ay dalbanayaan in Faysal Cali Waraabe sharciga la hor keeno gudoomiye ku-xigeenka oo hadlaya ayaa yiri arinta uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe shacabka reer Soomaaliland gudo iyo dibadba halka ay ka taagan yihiin mid la mid ayuu ka taagan yahay xisbiga talada haya ee kulmiye wax laga xumaado ayuu ahaa hadalka ka soo yeeray gudoomiye Faysal Cali Waraabe aadayana uga xunnahay waxaana arintaasi talaabada laga qaadayo ay u taala golayaasha sharci dejinta iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland waxaana uu sheegay inay ka sugayaan go'aan kama dambayso ay ka qaataan hadallada ka soo duulaya gudoomiye Faysal Cali Waraabe kuwaas oo iska horkeeni kara bulshada Soomaaliland dhawaan ayay ahayd markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid Faysal Cali Waraabe uu si adag u naqliyay siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha gobolka Sool gaar ahaan waxa uu bartilmaameedsaday gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax kuwaas oo dusha u saaray dhammaanba eedaymihii uu jeediyay intii uu ku guda jiray shir jaraa'id oo qabtay dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muxaafidka kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere waxa uu daboolka ka qaaday in dib loo dhigay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo ku beegnaa in bishan la qabto sida uu sheegay warbaahinta waxaana uu sababeeyay xanuunka COVID-19 ee ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana waxay markii ugu horeysay bilowday dhaqangelinta hadalkii dhawaan ka soo yaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Xasan Cali Khayre kaasoo khuseeyay arrimaha doorashooyinka dawladda ayaa war ka soo saartay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho kaasoo diiradda lagu saaray sidii loo fulin lahaa amarkii ra'iisul wasaaraha dalka ee ahaa in xukuumaddu ay bilaabayso hirgelinta doorashada dalka taas oo ku dhacaysa waqtiga loogu talagalay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaana gudoomiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey oo ka qayb gashay shirka si ayaa sheegtay in guddigeedu uu diyaariyay tallaabooyinkii farsamo ee laga sugayay si loo hirgeliyo doorashada dalka la filayo inay ka bilaabato dabayaaqada sanadkan aynu ku guda jirnay 2020 kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ah ee loo qabo wada tashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dawladda federaalka iyo dhammaan dawlad goboleedyada si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta xubnaha guddiga ayaa si wada jira hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaara in loo gudbo arrimaha farsamo ee doorashada kadibna la soo bandhigo qorshe cad oo waqtiyeysan wasaaradaha arrimaha maaliyadda iyo gudaha ayaa iyaguna soo bandhigay qorshaha ku aadan doorashooyinka dalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhawaan qabsoomay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee dawladda hortaala xilligan ay tahay hirgelinta doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo laga hirgeliyo dalka Soomaaliya dhinaca kale xisbi siyaasadeedka ay leeyihiin xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya haatan haya taladeeda ayaa si rasmi ah looga diiwaan geliyay xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sida ila ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay warbaahinta u sheegeen xisbigani ayaa la siiyay magaca nabad iyo nolol oo ah kan ay ku caanbaxday xukuumadda haatan haysa talada ee uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana gudoomiye ku meel gaar ah looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed sida wararku ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay waxay warbaahinta la wadaageen in gudoomiyenimada Mahdi Maxamed Guuleed ay ugu wacan tahay iyadoo aysan kala cadayn qorshaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee xisbigani doorashooyinka soo socda ila wareedyo ka tirsan dawladda ayaa si warbaahinta u sheegaya in xisbigani uu wato madaxweynaha xilka haya gudoomiyenimada uu sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya waa tahay saaxiibayaal haatan aynu dib ugu laabano wararka Soomaaliland shirkad laga leeyahay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta oo horay Soomaaliland ula gashay heshiis ku aadan dhinaca shidaal baarista ayaa haatan lagu soo waramayaa in ay ku fashilantay hawlihii
shidaal baarista ay ka waday deegaanada Somaliland. Shirkadani laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo magaceeda la yiraahdo Raag Gas ayaa bishii Maarso ee 2014 waxay Somaliland la saxiixatay heshiis ay shidaal kaga baarayso deegaanadeeda, waxayna 5 sanadood kadib bartamihii 2019 bilowday sahan heer hoose oo ay ka samaynaysay qaybaha galbeedka ee Somaliland, gaar ahaan blogyada SL9. hase yeeshee marka laga soo tago inaysan shirkadaasi Raag Gas lahayn sharciyad ay shidaal uga soo saari karto Somaliland, waqti xaadirkani ayaa haddana waxaa soo baxaya fashil soo abbaaray shirkadaasi kaasoo ku aadan howlihii ay ka waday deegaanada Somaliland. shirkadani laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa horay waxa uu soo baxayay warar looga dayrinayo khibradda ay u leedahay inay shidaal baarto, iyadoona horay aysan taariikhdeeda ugu xusnayn shidaal ay ka soo saartay dalalka caalamka marka laga reebo inay suuqgeyn ku samayso. shirkadani reer Imaaraat ayaa horay heshiis ula gashay Zanzibar kaasoo ku aadanaa in ay ka samayso shidaal baarisa, waxaana goor dambe heshiiskaasi uu noqday mid fashilmay. waxay sidoo kale shirkadaasi ku doodaa inay howlo shidaal baarisa ka samaysay dalalka Masar iyo Malawi, balse ilaa iyo haatan lama soo warin wax shidaal oo ay ka soo saartay dalalkaasi marka laga reebo inay xilfad u leedahay suuqgeynta shidaalka ay soo saaraan shirkadaha kale. waxaana haatan wararku ay sheegayaan in shirkadaasi ay dib uga laabanayso heshiiskii ay la gashay Somaliland kadib markii ay weyday khibrad ku filan oo ay shidaal baaris kaga samayn karto deegaanada galbeedka ee Somaliland. isbahaysiga ay hogaamiso boqortooyada Sacuudi Carabiya ee dalka Yemen ayaa soo riday 2 diyaaradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalantay gudaha dalka Yemen ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay wakaalada wararka ee Sacuudiga ka soo xigatay afayeen u hadlay isbahaysigaasi. diyaaradahani oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn isla markaana loo yaqaano droneska ayaa lagu weeraray magaalada Mushait oo ku taala xuduudda labada dal ee Yemen iyo Sacuudiga, waxaana wakaalada wararka ee Sacuudiga ay ku eedeysay kooxda Xuutiyiinta in ay beegsadeen goobo dadweyne oo ay doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan tiro gantaalo ah oo ay dadka ku waxyeeleynayaan. kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaan ilaa iyo haatan ka hadlin ama aan xaqiijin sheegashada dowladda Sacuudiga ee ku aadan inay soo riday 2 diyaaradood oo kuwa droonka, laakiinse kooxda Xuutiyiinta ayaa dhawaan sheegtay in diyaaradaha isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka xuduudda dhaca ee Marib, halkaas oo ay dagaalo ka socdaan 3 bilood ee la soo dhaafay. xabajoojinta ay boqortooyada Sacuudigu ku dhawaaqday bishii Abriil ayaa dhamaatay toddobaadkii hore iyadoo uusan jirin heshiis rasmi ah kadib markii fallaagada Xuutiyiintu ay diideen inay ka qayb noqdaan heshiiska laga gaarayo colaadda wadankaasi Yemen, taasoo noqotay mid daba dheeraatay isla markaana ay ku hardamayaan kooxda Xuutiyiinta oo taageero ballaaran ka helaya dowladda Iiraan iyo sidoo kale isbahaysiga Hormuudka uu ka yahay Sacuudigu, isla markaana ay ku jiraan dhowr dal oo kale oo kuwa Carabta kuwaasoo doonaya in ay Xuutiyiinta ka sifeeyaan dalka Yemen. hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa digniin ka soo saaray fawdo ay wadaan xubno horay uga tirsanaan jiray maamulka Diilay ee deegaanka Soomaalida aan u horseedaynin dhinaca horumarka. dalka Shiinahana waxaa lagu soo waramayaa inuu mar kale dib uga laba kacleeyay xanuunka COVID-19 ee markii hore iyada ka soo bilowday, iyadoo haatan lagu soo waramayo in tiradii ugu badnayd ee kiisaska xanuunka COVID-19 3 maalmood gudahood la diiwaan geliyay kadib dhowr xaaladood oo laga helay dad ka soo noqday dalka Masar oo ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ee sida baan uu saameeyay. Shiinaha ayaa dib u soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 ku sheegay in dowladda Mareykanku ay sumaysay xoojinteeda kadib go'aankii Washington ee ahaa inuu xiriirka u jaray ururka caafimaadka adduunka ee WHO, wuxuuna sheegay in ka bixitaankaasi ay muujinayso raadraac siyaasadeed oo midnimo la'aan ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u sheegay wariyaasha xilli uu socday shirka jaraa'id ee maalinlaha ah isaga oo bulshada caalamka uga digay inay raacaan waxa uu ugu yeeray dhaqan xumada dowladda Mareykanka. jimcihii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanku uu joojinayo xiriirkii uu la
lahaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO isagoo sheegay inay ku guuldareysatay inay si fiican uga jawaabto xanuunka loo yaqaano COVID-19 sababtoo ah Shiinaha ayaa gacanta ku haya guud ahaanba hay-addaasi ayuu sheegay madaxweyne Trump. dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayuu xumaaday xiriirkooda dhinaca diblomaasiyadda tan iyo markii uu dunida ku faafay safmarka COVID-19 ee ka soo dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii 2019 waxaana dowladda Mareykanku ay ku eedeynaysaa dalka Shiinaha in uu xanuunkani u qariyay dunida iyo sidoo kale tuhun ku aadan in xanuunkaba lagu soo farsameeyay macadka cudurrada faafa ee magaalada Wuhan Institute of Virology. inkastoo dowladda Shiinuhu ay si cad u beenisay arrinkaasi isla markaana ay sheegtay inaysan iyadu gacanteeda ku samaynin safmarkani dunida walaaqaya waxaana goor dambe dowladda Shiinuhu ay ogolaatay in hay-adda caafimaadka adduunka iyo khubaro madax bannaan ay baaritaan ku sameeyaan wararkaasi ka soo duulay dhinaca dalka Mareykanka isla markaana ay yimaadaan magaalada Wuhan. laakiin hay-adda caafimaadka adduunka waxay dalbatay in la badiyo khubarada madaxa bannaan ee ka qayb qaadata baaritaankaasi si loo ogaado habkii uu marka hore ku soo dilaacay safmarkaasi. saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo oo ku gootiyeen nolosha ku soo qaban doonaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale weerar rogaal celisa oo ku soo qaado gobolkaasi. beesha caalamku waxay go'aan geesinimo leh ku tilmaamtay hadalkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa uu shaaciyay inay guud ahaanba hubka dhigis ku sameyn doonaan beelaha ku nool deegaanada Galmudug. madaxweyne Dani waxa uga digay dowladda federaalka inay si qaldan uga faa'iideysato khilaafka asaga iyo ku xigeenkiisa waxa uu na qaadacay qorshaha doorashooyinka Soomaaliya. tigreega wadanka Itoobiya waxay ku adkaysteen mowqif ay horey u qaateen waxayna ku gacan saareen hanjabaad cusub oo uga timid ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed. wasiiro ka tirsan Somaliland waxa laga helay cudurka coronavirus asagoo faafitaanka cudurkaasina uu iminka deegaanadaasi ku sii badanayo iyo in ka badan 5,000 oo qofood oo lagu xiray dalka Mareykanka doodbaxyada ka soconaya awgees. aynu ka horeynaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo ayaa ku goodiyeen nolosha ku soo qaban doonaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale weerar rogaal celisa ku qaado gobolka Gedo. wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa isagoo abaabul ka wada duleedka Mandheera waxa ayna arintaasi dhalisay in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo heegan la geliyo. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo la hadlayay ciidamadooda ayaa u sheegay inay isku diyaariyaan wax ka qabashada weeraro ay sheegeen in la filayo in Jubbaland war kale ay ku soo qaado gobolka Gedo. saraakiisha ayaa ku goodiyeen ciidamada dowladdu ay gacan bir ku qaban doonaan amniga haddii ay isku dayaan Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo maamulkiisuna ay ka hortagi doonaan inay halkaasi soo weeraraan. sidoo kale waxay sheegeen Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale isku dayo inuu weerar ku soo qaado degmada Beled Xaawo inay nolosha ku soo qaban doonaan oo ciidamada dowladdu ay u diyaarsan yihiin awood ahaan iyo tactika ahaan isla markaasna la qorsheeyay qaabka gacanta loogu dhigi lahaa. saraakiishu waxay ku goodiyeen in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo iminka si wanaagsan loo diyaariyay ayna haystaan hub iyo sidoo kale tasaanad ku filan oo ay ku howlgalaan. waxay sheegeen inay difaaci doonaan ammaanka guud ee gobolka Gedo iyo shacabka ku dhaqan gobolkaas inay nabadgelyo ku noolaadaan iyagoo wacad ku maray inaysan aqbali karin in mar kale deegaano ka tirsan gobolka Gedo uu ka dhaco dagaal ay Jubbaland qayb ka tahay iyagoo sheegay saraakiisha ciidamada dowladdu in intii ay ku sugnaayeen gobolka Gedo ay aslaaxiyeen gobolkaas ayna ka dhigeen nabad buuxda. saraakiishu waxay ugu baaqeen sidoo kale shacabka gobolka Gedo inay la shaqeeyaan laamaha amniga ayna ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan cid amni darro gobolkaasi ka sameynaysa. ciidamada gobolka Gedo ku sugan ee dowladda Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa loo diyaar gareeyay inay ka hortagaan weeraro la filayo in Cabdirashiid Jaran iyo ciidamo uu hogaaminayo ay ku soo qaadaan gobolka Gedo.
cabdirashiid jaran ayaa ku sugan duleedka Mandheera halkaasoo la sheegay inuu ka wado diyaargarow ku aadan weerar rogaal celis oo mar kale ku qaado deegaano ka tirsan gobolka Gedo arrintaasoo ciidamada dowladuna ay sheegeen inay ka hortagayaan. dadka ku sugan gobolka Gedo waxay walwal ka muujiyeen u diyaargarowga labada dhinac ee socda taasoo sababi karta in dagaal uu halkaasi ka dhaco isla markaasna mar kale lagu dul dagaalamo. dowladda ayaa maamulka madax banaan Jubbaland u sameysay gobolka Gedo arrintaas oo sii xoojisay awoodda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay gobolkaas meeshana ka saartay Axmed Madoobe iyo rag la shaqeey jiray ee ka howlgali jiray deegaanada gobolka Gedo. khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa marba marka ka dambeeyay cirka isku sii shareeraya. dadaalo ay ku wada hadlayeen wasiirka amniga Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ayaana fashilmay waxaana qorshahaasi mar kale keenay in wasiir jaran uu isku dayo inuu mar kale weeraro deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan Beled Xaawo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland. lama oga halka ay ku dambeyn doonto xiisada dib uga soo cusboonaatay gobolka Gedo iyo diyaargarowga dagaal ee halkaasi ka soconaya. odayaasha dhaqankuna waxay sheegeen inaysan aqbali doonin in deegaanadooda ay ku dagaalamaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo Jubbaland iyagoo ugu baaqay in la joojiyo xasaradaha dhinacyada kala duwan ee halkaasi ka soo cusboonaaday. beesha caalamka ayaa go'aan geesinimo leh ku tilmaamtay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ee arrimaha doorashooyinka. beesha caalamka oo dhabaalo u soo dirtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa ayaa ku bogaadiyay dadaalada ay bilaabeen ee ku aadan qabashada doorashooyinka qaranka waqtigii hore loogu aasteeyay. beesha caalamku waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay in doorashooyinka la gudagalo oo diyaargarowgooda waxayna xukuumadda Xasan Cali Khayre ku tilmaamtay inay iminka qaaday tallaabo muhiim u ah xasiloonida dalka. dowladaha Mareykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo dowlado kale oo safaarado ku leh magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay go'aanka uu qaatay ee ah u diyaargarowga doorashooyinka iyo hirgelinta hanaan loo dhan yahay oo siyaasadeed oo wadanka ay doorasho uga dhacdo. beesha caalamku ra'iisul wasaaraha waxay ku dhiirigeliyeen in la furo wada hadallo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda Soomaaliya iyo saamilayda siyaasadeed si meesha looga saaro madmadowga siyaasadeed ee madaxda Soomaalida. waxay hoosta ka xariiqeen beesha caalamku ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa looga baahan yahay qorshe amni xaqiijin ah oo ciidamada dowladda ay hormood ka yihiin inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka. waxay u ballan qaadeen ra'iisul wasaaraha in beesha caalamku ay doorkooda qaadan doonaan ayna diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan dowladda arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga miro dhali lahaa. waa tallaabadii ugu horeysay oo beesha caalamku ay u aragtay mid doorashooyinka qabashadooda dhab ka dhigi karta waxayna soo dirtay dhambaal degdeg oo ay ra'iisul wasaaraha ku bogaadinaysa si doorashooyinka loo qabto. ra'iisul wasaaraha ayaa bilaabay in xukuumaddiisu ay dhaqan geliso hadalkiisii waxayna kulan ay ku yeesheen villa Soomaaliya ay ku ballan qaadeen in la gudagali doono arrimaha doorashooyinka iyo diyaargarowgooda. in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka ayna ka qayb galaan saamilayda siyaasadeed iyo madaxda maamul goboleedyada waa fakarka koowaad ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. arrintaasna beesha caalamku waxay u aragtay mid muhiimad gaar ah leh oo Soomaaliya xasiloonideeda iyo dimuqraadiyadeeda ka qayb qaadanaysa. Xasan Cali Khayre hadalkiisa hore waxa uu soo dhaweeyay xisbiyada mucaaradka taas oo iminka sii muujinaysa kalsoonida beesha caalamka oo lagu daray inay suurtagal ka dhigayso in doorashadu waqtigeeda ay ku qabsoonto. saluug badan ayaa hore u ayay beesha caalamka iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka kuwaas oo ku andacoonaya in dowladda ay ka gaabisay arrimihii doorashooyinka balse iminka labadaba waxay qabaan rajo ku aadan in hadalka ra'iisul wasaaruhu uu yahay biyo kama dhibcaan. Xasan Cali Khayre ayaa beesha caalamka u ballan qaaday dhankiisa in dowladdu ay sii wadayso qorshooyinka ku aadan doorashooyin loo dhan yahay taasoo si dhab looga wada xaajoodo. doorashooyinka Soomaaliya sanadka 2021 ayaa waxay buddhig u yihiin arrimaha dimuqraadiyadda waxayna ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya marba marka ka dambeysay ay kasii gudbayso marxaladda 4.5 ee u sii diyaar garoobayso doorasho loo dhan yahay oo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir uga qayb galaan.
inkastoo la filayo in doorashada Soomaaliya sanadka 2021 ay noqoto qof iyo cod haddana iminka arrintaas ma muuqato waxaana suurtagal in la raadiyo xal kaleete oo loo dhan yahay oo doorashooyinka lagu qaban karo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa shaaciyay in dhammaan hubka dhigis ay ku sameyn doonaan beelaha deegaanada Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa gobolka Mudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu dadaal xoogan ugu jiro sidii maleeshiyaadka ku sugan deegaanada Galmudug hubka looga dhigi lahaa Galmudugna loo sameyn lahaa awood ciidan oo ay ku midaysan tahay madaxweynaha ayaa sheegay inay doonayaan inay mideeyaan awoodda maamulka Galmudug isla markaasna maleeshiya beeleedyada lagu bedelo ciidamo daraawiisha iyo kuwa booliis oo maamulka Galmudug u yeesho Galmudug ayuu sheegay in hubka maleeshiyaadka gacanta ugu jira ay la wareegayso isla markaasna la dhisayo ciidamo lagu midaysan yahay si qorshooyinka amni ee Galmudug ay u noqdaan kuwa taabagala hubka dhigista beelaha ee Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa ku soo aadaysa iyadoo la bilaabay dadaal ku aadan dhismaha ciidamo Galmudug ay yeelato kuwaas oo lagu bedelayo ciidamadii maleeshiyaadka ahaa ee hore ugu kala sugnaa gobolada Mudug iyo Galgaduud madaxweynaha Galmudug ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay taageeraan go'aanka maamulka ee ah hubka dhigista isla markaasna ay ciidamada maleeshiyaadka u soo wareejiyaan si ay uga mid noqdaan daraawiishta Galmudug madaxweynaha Galmudug ayaa tilmaamay in amniga deegaanada lagu wareejin doono ciidamo gaar ah oo ka amar qaata maamulka isla markaasna shacabka laga doonayo inay taageero xoogan muujiyaan ugu dambeyntii waxa uu xusay in kulamada looga hadlayo ka dhaadhicinta beelaha inay hubkooda iyo ciidamadooda soo wareejiyaan ay xukuumadiisu ugu jirto dadaal iyo inay la kulanto odayaasha dhaqanka si arrintaas ay uga dhaadhacsiiso waxaana sheegay inay sii wadayaan qorshooyinka ku aadan sugitaanka amniga iyo hubka dhigista beelaha lagu sameynayo si loo helo Galmudug lagu midaysan yahay iyo ciidan amni oo dadka reer Galmudug amaankooda suga hadalka Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa ku soo aadaya iyadoo la bilaabay qorshooyinkii ugu horeysay maleeshiyaadka dawladda loogu wareejinayo si meesha looga saaro ciidamadii goonida ahaa loona helo Galmudug ciidamo ay leedahay oo ay dadka dhani ku midaysan yihiin qorshaan ayaa la ogayn sida uga dhaqan gali doono gobolada Mudug iyo Galgaduud oo inta badan ay hubka gacantooda ku haystaan beeluhu isla markaasna ay jiraan ciidamo aan ka amar qaadan Galmudug iyo dawladda Soomaaliya oo ku kala sugan degmooyinka gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Mudug maamulka Galmudugna uu sheegay in ciidamadaas la xareyn doono hubkana ay la wareegi doonto maamulka Galmudug si loo helo Galmudug ay shacabkeeda iyo dadkeeda ku wada qanacsan yihiin iyo ciidamo amni oo sugo xuduudaha iyo amniga guud ee Galmudug dana ayaa wadigay madaxda dawladda Soomaaliya inay si qaldan uga faa'iideystaan khilaafka u dhaxeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa waxaana qaadaa qorshaha doorashooyinka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo jeediyay qodbadu kaga hadlay arrimaha deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hadalhaynta aadka u weyn ee dadka Soomaaliyeed ay hadalhayaan ee ku aadan qorshaha doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka madaxda Puntland madaxweynaha ayaa dadweynaha la wadaagay xaaladda amniga guud ee deegaanada Puntland ee la sameeyay maalmihii ugu dambeysay iyo howlgaladii ciidamadu ay sameeyeen oo lagu hirgelinayo ammaan buuxa loogana hortagayay in falal amni darro oo kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland kadib qaraxii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxda dawladda Soomaaliya uga digay inay si qaldan uga faa'iideystaan khilaafka madaxda Puntland oo ku aadan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo iyagu iminka khilaaf uu ka dhaxeeyo waxa uu sheegay in dad siyaasado gaar ah ay doonayaan inay baabuuniyaan khilaaf fudud oo u dhaxeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa arrintaas oo madaxda dawladda Soomaaliya uga digay inay qorshe kale u adeegsadaan waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sidii arrintaas wax looga qaban lahaa isla markaasna uga digayo qofka seeto si qaldan wax uga raadinaya deegaanada Puntland doonayana inuu kaga faa'iideysto khilaafka iminka taagan hadalka Dani ayaa xoojinaya khilaafka loo taag waayay ee u dhaxeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa ee wali ka ogan deegaanada Puntland
docda kaleetana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka waxa uuna sheegay in maamulka Puntland uusan aqbali doonin dhammaan hanaanka doorashada Soomaaliya haddii aan lagala sameyn madaxda Puntland. waxa uu sheegay in Puntland aysan ka qayb gali doonin hanaanka doorasho isla markaasna qorshihiisu ka socdo magaalada Muqdisho haddii aan heshiis laga gaarin siyaasadda buuxa. Dani waxa sidoo kale uu xuseynaysa ku matali karin hanaanka doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare maadaama uu sheegay inaysan imaan doorashooyinka shacabka ayna ku yimaadeen xulasho gaar ah. ugu dambeyntii waxa ku baaqay in heshiis siyaasadeed laga gaaro hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ka hor inta aan la bilaabin qorshaha hadda socda. waxa uu sheegay madaxweyne Deni in loo baahan yahay in saamilayda siyaasadeed ay ka wada xaajooto arrimaha doorashooyinka iyo sida lagu wajahayo waxaana ku baaqay meesha laga saaro in dad gaar ah ay adeegsadaan hanaanka doorashooyinka isla markaasna taas ay ka dhalan karto cawaaqib xumo Puntland aysan ka qayb gali doonin. Deni ayaa dhowr jeer horeeta ka hor yimid qorshooyin dowladda Soomaaliya ay wado ku aadan doorashooyinka 2021 waxa iminka dalbanaya in Puntland ay qayb weyn ka noqoto geedi socodka siyaasadeed iyo diyaar garowga qorshaha doorashooyinka qaranka. lama oga sida madaxda dowladda Soomaaliya ay u ajiibi doonto baaqa ka yeeray madaxweynaha Puntland ee ku aadan in wada tashi lagala sameeyo arrimaha doorashooyinka. Tigreega waddanka Itoobiya ayaa ku adkaystay mowqif ay hore u qaateen oo ay doorashooyin ku qabanayaan waxayna ka hor yimaadeen kuna gacan sayreen hanjabaad uga timid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. xisbiga Tigreega Itoobiya ee loo yaqaano TPLF ayaa ku adkaystay go'aankooda inay qaban doonaan doorashooyinka iyagoo ku gacan sayray digniin iyo hanjabaad kaga timid dhanka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. bayaan ka soo baxay xisbiga Tigreega ayaa lagu sheegay in dib u dhigista ay dowladdu sameysay doorashooyinka isla markaasna aysan aqbali doonin inay ku adkaysan doonaan inay doorashooyinkooda qabsadaan. bayaanka sidoo kale waxaa lagu eedeeyay xisbiga Abiy Ahmed uu hogaamiyo ee PP taas oo ay sheegeen inuu galay dambiye waaweyn oo ay ka mid tahay inuu ka tanaasulay madax banaanida iyo danaha amniga qaranka ee dalka uuna jabiyay dastuurka iyo sidoo kale dagaal ku qaadista kuwa la jira dastuurka sida xisbiga Tigreega. xisbiga PP oo hogaamiye ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale waxa uu halis ku yahay amniga dalka isagoo adeegsanaya akhbaaro been abuur ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xisbiga TPLF. sidoo kale waxa ay dhaliileen muuqaal laga baahiyay warbaahinta dowladda 28 May oo ahayd sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada TPLF ay galeen magaalada Addis Ababa kadibna ay dagaal 17 sano socday ay la galeen taliskii waddankaasi xukumi jiray isla markaasna ay kaga guuleysteen. muuqaalka waxa uu muujinaya xadgudubyo ka dhan xuquuqda bini'aadamka oo loo geysto maxaabiis siyaasadeed waxaana muuqaalkan uu muujiyay xasuuq ba'an oo ka dhacay waddankaasi. xisbiga Tigreeg waxay ku baaqeen in guddiga doorashooyinka qaranku inay doorashooyinka ku qabtaan waqtigeeda si waafaqsan dastuurka. hadday taasi dhici weysan oo gobolka Tigreeg sii wadi doono oo diyaar garowga doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahaa. waxay sidoo kale ku eedeeyeen Abiy Ahmed inuu inkirayo xuquuqda dadku ay ku leeyihiin inay iskooda isku maamulaan iyo inuu qaadayo dagaal ka dhana gobolka. xafiiska Abiy Ahmed wali kama soo jawaabin hadalka ka soo yeeray xisbiga Tigreega ee eedaynta loogu jeediyay Abiy Ahmed ayna ku tilmaameen nin doonaya inuu dalkaasi qalalaaso uu ka abuuro iyagoo sidoo kale sheegay inay doorashooyinka qaban doonaan haddii guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya ay doorashooyinka waqtigooda ku qaban waayaan. arrimaha isjiidka khilaaf ee ka socda waddanka Itoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan dowladda Itoobiya ay sheegtay in coronavirus ay dib loogu dhigay doorashooyinka waddankaasi.
xisbiga Tigreega ayaana gaashaanka ku dhiftay qorshooyinka dawladda ee ku aadan dib u dhigista doorashooyinka waxaana sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ay doorashooyinka ku qabanayaan isla markaasna haddii ay dawladda dhexe ee Itoobiya qaban weyso ay dhankooda qaban doonaan wasiirka ka tirsan Somaliland ayaa laga helay cudurka COVID-19 ilaa iyo 2 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa laga helay COVID-19 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Somaliland sidoo kale waxaa jira wasiiro kale oo laga baaray cudurka coronavirus waana laga waayay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka Somaliland wasiirka maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa shaaciyay in laga helay cudurka COVID-19 oo ka mid yahay dadka cudurkaasi uu ku dhacay bartiisa Twitter-ka ayuu qoraal uu ku soo qoray uu ku sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay iminka balse laga helay cudurka Somaliland ayaa ka mid ah meelaha sida weyn u saameeyay cudurka COVID-19 oo asagu saameyn ku yeeshay dunida oo dhan inkastoo xukuumadda Somaliland iyo guddigeeda ka hortagga COVID-19 ay dadaal wadaan haddana cudurku marka ka dambaysa halistiisa ayuu leeyahay guddiga ka hortagga COVID-19 ee hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku waxay sheegeen inay sameeyeen qorshe lagu xakameynayo cudurka coronavirus inkastoo arrintaasi la iyo haatan aysan u muuqan mid mira dhashay dadaalada guud ahaanba Soomaalida oo dhan deegaanadeeda ka soconaya ee cudurka coronavirus ayaa hooseeya waxaana inta badan lagu tiriyaa inaysan Soomaalidu qaadan tilmaamaha caafimaad ee cudurkaasi looga hortagayo isla markaasna dadka dhaqaatiirtu ay u jeedinayaan inta badan 5,000 oo qofood oo dadbaxayaal ayaa lagu xiray gudaha dalka Mareykanka ugu yaraan 5,600 oo qofood ayaa lagu qabtay magaalooyin ku yaala Mareykanka tan iyo markii ay bilowdeen dadbaxyada looga soo horjeedo dil loo geystay nin madow ah sida lagu sheegay warbixin ay daamacdo wakaalada wararka AB dhammaan dadkan ayaa la xiray ciidamada ilaalada qaranku waxay bilaabeen hawlgal ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dadbaxyada ka soconaya gudaha Mareykanka qabashadan ayaa imaanaysa iyadoo mudaharaadayaashu ay magaalooyinka qaar ay noqdeen kuwa rabshado wata isla markaasna lagu bilaqaysto goobo ganacsi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku booriyay booliska iyo gudoomiyaasha inay si xoog ah ku joojiyaan dadbaxyada magaalada Minneapolis oo lagu dilay ninka madowga ayaa lagu xiray ilaa 155 qofood qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka ayaana laga sameeyay qabqabasho tiro badan oo dada kuwaas oo ku dhow ilaa 800 oo laga qabtay magaalada New York iyo in ka badan 900 oo laga qabtay Los Angeles ciidamada Mareykanku waxay bilaabeen in dadka hormoodka ka dadbaxyada ay soo qabtaan si lagu joojiyo dadbaxyada oo Mareykanka oo dhan guud ahaan bacmiimay dilkan ay dadku sida weyn uga careysan yihiin waxa ku kacay askari ka tirsanaa ciidamada booliska Mareykanka arrintaasi waxay dhalisay in dadku ay ka cawdaan tilaabada ay qaadeen booliska ayagoo cadaalad dalbanayay saraakiisha ciidamada Mareykanku waxay sheegayaan in cadaalad raadinta kale iyo dadbaxyadu aysan ku salaysnayn balse ay ku hoos jiraan dad qas iyo boob ka wada gudaha Mareykanka oo goobo ganacsi iyo dukaamo ay dad lahaayeen xaaluf ka dhigay isla markaasna wadankii Mareykanka u bedelay goob biliqa iyo qas xooggan uu ka socdo Trump waxa uu sheegay in cid walba oo ka qayb qaadata xasilooni darada iyo rabshadaha ka socda Mareykanka in laamaha amnigu ay fasax u yihiin inay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan ma cadda sida lagu xakameyn karo dadbaxyada wali ka jira gudaha Mareykanka iyo sida laamaha amniga tilaabadu ay qaadeen ay u noqon doonto mid taabagal ah dawladda Kenya oo sheegtay in Soomaaliya ay cuuriyaaminayso ganacsigeeda kadib markii ay dawladda Soomaaliya ruqsadda kala noqotay diyaarada laga leeyahay dalkaasi madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kraash oo kulanka foolka ku yeeshay magaalada Garowe tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhexgalay Mareykanka oo laga cabsi qabo in uu ka dilaaco dagaal sokeeyay iyo madaxweyne Donald Trump oo ku goodiyay inuu militariga ku fasixi doono dibadbaxayaasha careysan madaxda maamul goboleedyada Mareykankana ku tilmaamay kuwa doqoma hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka badbaaday mooshin xilka looga qaadi rabay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo ku eedeeyay dawladda Soomaaliya in ay qalad weyn ka galayso dadka ku nool magaalada Muqdisho Talyaaniga oo
ka shaqaynaya sidii Turkigu uu uga mid noqon lahaa midowga Yurub kadib abaalkii uu galay iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya oo sheegay in ay Somaliland ka caawinayaan sidii lagaga hortagi lahaa cudurka COVID-19 aan ku bilaabo sidoo hordhaca warkeena idinkugu sheegay warbaahinta wadanka Kenya ayaa sheegtay in xukuumadda Nairobi ay ka carootay talaabadii ay dawladda Soomaaliya ruqsadda duulimaadka uga noqotay laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka Kenya oo ku xadgudbay amarro ay horay dawladda Soomaaliya wadanka ugu soo rogtay oo lagu joojiyay qaadkii ka imaan jiray gudaha wadanka Kenya ee Soomaaliya la geyn jiray dawladda Kenya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay cuuriyaaminayso ganacsigeeda maadaama ay qaaday talaabooyin isxigxiga oo ay ku beegsanayso danaha Kenya ee Soomaaliya qaasatan diyaaradaha laga leeyahay Kenya waxa ay soo qaaday talaabadii horay loogu soo riday diyaarad laga leeyahay dalkeeda oo ay dhulka dhigeen ciidanka Itoobiya ee ka howlgala Soomaaliya iyo tii xigtay ay dawladda Soomaaliya ruqsadda duulimaadka uga noqotay ilaa 2 shirkadood oo dhinaca duulimaadka oo Kenya laga leeyahay waxa kale oo ay xukuumadda Nairobi sheegtay in dawladda Soomaaliya ay kol hore joojisay qaadkii ka bixi jiray dalka Kenya ee loo beecgeyn jiray Soomaaliya talaabadaasi oo ay sheegtay in laga goleeyahay in lagu hagardaameeyo dalka Kenya dhaqaalihiisana hoos loogu dhigo warbaahinta Kenya oo saacadii la soo dhaafay si weyn u faaqidaysay talaabooyinka ay qaadayso dawladda Soomaaliya ee ka dhanka Kenya ayaa waxa ay ka soo xigatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya in iyaguna ay qaadi doonaan talaabooyin argudasho si ay kaga jawaabaan beegsiga ay Soomaaliya ku hayso Kenya talaabooyinka macquulka ay Kenya qaadi karto ayaa waxa kamid ah in ay cunaqabatayn saarto ganacsiga Soomaalida ku nool wadanka Kenya iyo beegsashada dan walba oo Soomaaliya kaga xiran dhinaca Kenya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ka dhaxeeyo khilaaf soo jiitamay oo dhinaca xuduud badeedka ah iyo faragelin lagu eedeeyay xukuumadda Nairobi inay ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ka dhex qarxay dagaal kale oo dhinaca ganacsiga ah maadaama labadan dal ee uu muranku ka dhaxeeyo uu mid walba u arkayo talaabada uu qaado dhinaca kale mid isaga caqabad ku ah dhaqaalaha wadanka Kenya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii la joojiyay jaadkii laga keeni jiray wadanka Kenya ee la geyn jiray Soomaaliya waxa sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya duulimaadka ku taga oo u badan kuwa saldhigoodu yahay Nairobi ay la kulmeen cunaqabatayn tan iyo markii la soo rogay xayiraadda dhinaca hawada ee ka dhalatay safmarka COVID-19 lama oga sida uu xaalku isku bedeli karo iyo talaabooyinka xigay ay qaadi karto xukuumadda Nairobi si ay kaga jawaabto cunaqabataynta iyo cuuriyaaminta dhaqaale ay sheegtay inay kala kulmayso Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash ayaa kulanka foolka ku yeeshay magaalada Garowe tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhexgalay wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno dhexdhexaadinta hogaamiyaasha ugu sarreeya Puntland ayaa sheegay in hadda ay bilowdeen kulamo lagu heshiisiinayo madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa kadib dadaallo ay sameeyeen isimada dhaqanka ee Puntland qaarkood xubnaha isimada oo kaashanaya guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana mid walba laga dhageystay waxyaabaha uu ka tabanayo kan kale Axmed Kaash ayaa Dani ku eedeeyay jabinta qodobo kamid ah dastuurka iyo la tashi la'aan uu ku kacay wuxuuna isimada u sheegay inuu u hogaansamayo baaq kasta oo ay u soo jeediyaan Dani ayaa dhankiisa Kaash isna dusha u saaray wareegtooyin isburinaya oo uu ka soo daba saaray waxa uuna ku eedeeyay ku xadgudubka dastuurka hase yeeshee haatan waxaa dhacay kulan ay labada mas'uul markii ugu horeysay yeesheen oo ka qabsoomay madaxtooyada Puntland ee Garowe kulanka oo ay goobjoog ahaayeen isimada ugu caansan deegaanada Puntland iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka ayaa waxa lagu faaqiday xal u helista khilaafka labada mas'uul intii uu kulanku socday ayaa dhinac walba waxa uu soo bandhigay waxa uu ka tabanayo dhanka kale iyo qaabka ugu wanaagsan ee uu arko in xal lagaga gaari karo xiisada siyaasadeed ee haraysay dawlad goboleedka Puntland ee barihii dambe taagnayd kulamada u dhaxeeya labada mas'uul ayaa lagu wadaa marka ay soo idlaadaan in war-saxaafadeed laga soo saaro isla markaasina heshiis horudhaca laga gaaro khilaafkii hore si ay u sii socoto wada shaqaynta madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa
isimada ayaa u gogol xaaraya in la helo heshiis ay mustaqbalka dhow iyo kan dheerba ku sii wada shaqayn karaan madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash oo muddo badan uu soo noqnoqday khilaafkooda iyo isqabqabsiga dhinaca awoodda ee u dhaxeeya labada mas'uul ee u sareeya maamulka Puntland. xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay shaqada hay'adaha dowlad goboleedka Puntland waxaana sidoo kale jirtay in mas'uuliyiinta maamulka qaarkood ay la kala safteen labada mas'uul iyadoo sidoo kale xilalka laga qaaday mas'uuliyiin taageero u muujiyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Kaash sidoo kalena laga mamnuucay in uu ka hadlo warbaahinta ku hadasha afka dowlad goboleedka Puntland sida TV-ga iyo raadiyaha iyo barta Facebook ee madaxtooyada Puntland. waxaa sidoo kale xigtay in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu sameystay bar u gaar ah oo uu ku baahiyo wararkiisa hase yeeshee kol dhaweyd ayay ahayd markii hawada laga saaray bartaasi waxaana Axmed Kaash iyo xubnaha ka agdhow ay tuunsan yihiin in talaabada hawada lagaga saaray bartii Facebook ee u gaarka ahayd madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay ka dambeeyeen taageerayaasha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Mareykanka ayaa qarka u saaran in uu ka qarxo dagaal sokeeye xilli ay sii kordhayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee sida daadkii ugu baahay guud ahaan gobolada Mareykanka. askari ka tirsan booliiska magaalada Las Vegas ayaa kamid ahaa 2 qof oo lagu toogtay halkaasi sida warbaahintu ay sheegtay. warbixin lagu qoray wargeyska The Las Vegas Review Journal ayaa lagu sheegay in booliiska magaaladaasi ay xaqiijiyeen in askariga lagu toogtay hotel agtiis. telefishinka 8 News Now ayaa sidoo kale baahiyay in askariga uu kamid ahaa 2 qof oo goobta lagu dilay. dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxa ay noqdeen kuwa saameeyay guud ahaan dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha. waxaa dibadbaxyaashan caraysan ay bilaqaysanayaan goobaha ganacsiga oo ay si joogto ah u boobayaan iyaga oo burburinaya gawaarida iyo xarumaha dawladda dabna qabadsiinaya wax kasta oo ka hor yimaada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadaba ku hanjabay talaabadii ugu cuslayd oo uu ku wajahayo dibadbaxa ka socda wadanka Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga inay la tacaalaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee ku sii baahaya gobolada wadanka Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari u soo diri doono wadooyinka caasimada Washington. wuxuu kaloo ku hanjabay sidoo kale in uu geyn doono gobolada aan awoodin in ay xakameeyaan xaaladda. hadalkan ayaa yimid 7 kadib markii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kadib markii askari cadaan ah uu jilibka luqunta ka saaray sidaasna uu ku nafbaxay. waxaa dibadbaxyada ka dhashay dilka ninkaasi madowga ay noqdeen kuwa si weyn u gilgilay Mareykanka iyo dalal ka baxsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale kuwa doqoma ah ku tilmaamay madaxda maamul goboleedyada ee wadanka Mareykanka. Donald Trump oo qadka la iska arko kulan kula yeeshay barasaabyada maamul goboleedyada Mareykanka ayuu ku canaantay sida ay kaga gaabiyeen la tacaalida dibadbaxyada rabshadaha wata. Trump oo kulanka oo idil u rogay ciyaar iyo aflagaado ayaa barasaabyada ku tilmaamay kuwa daciifa oo doqoma loona baahan yahay in ay u tafaxaytaan sidii xoog loogu maquunin lahaa rabshadaha ka socda Mareykanka iyo dadka dibadbaxa hormuudka u ah. barasaabka New York oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Trump uu doonayo in wax kasta xoog lagu xaliyo isaga oo marar badan ku goodiyay inuu ciidamada militariga adeegsan doono. wuxuuna sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u jabinayo sharciga u yaala Mareykanka uuna doonayo in qalalaaso hor leh dalkaasi laga oogo hase yeeshee aanay ka aqbali doonin. sidoo kale Trump ayuu ku dhaliilay in uu diiradda saarayo waxyaabo micno darro ah oo kaga sii daraya rabshadaha isagoo sheegay inuu iska indhatirayo sababta dadka kicisay oo wax ka qabasho u baahan iyo inay yihiin dibadbaxayaashu kuwa wax kasta laga filan karo oo xitaa afgambin kara dawladda Mareykanka ee quwadda weyn. rabshadaha Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa in ay ugu dambeyn isku rogaan isku dhac iyo dagaal sokeeye oo Mareykanka ka qarxa. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka looga qaado kadib markii isbahaysiga haya talada dalka Kenya uu isbedelo ku sameeyay xubno ka
tirsan oo jagooyin kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka iyo sanadka. Ducaale oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in sababta uu uga badbaaday xilka qaadista ay tahay in xubno ka tirsan xisbiga ay kalsooni ku qabaan shaqada uu ka hayo baarlamaanka waddanka Kenya gudihiisa. waxa uu amaanay xubnaha garab istaagay ee ka badbaadiyay mooshinka xilka lagaga xayuubin lahaa. waxa kale oo uu sheegay in kursiga uusan ku sii fadhin doonin isla markaana uu banayn doono marka uu soo afjarmo waqtigiisa. Ducaale waxa kursiga hoggaanka aqlabiyadda baarlamaanka Kenya loo dhiibay kadib doorashadii 2013 waxaana mar kale loo kordhiyay kadib doorashadii 2017. 7 sano ayuu kursiga hayaa. waxa uuna sheegay in uu wax weyn bedelay oo uu ku soo kordhiyay Kenya talaabooyin dhowr ah oo loo riyaaqay. Aadan Barre Ducaale ayaa meesha ka saaray in kala qaybsanaan ay soo kala dhex gashay xisbiga haya talada waddanka Kenya ee Jubilee kaasi oo dhawaanahanba isbedelo ku dhawaaqayay waxaana ay isbedeladaasi daaqada ka saareen dad badan oo magac ku leh siyaasadda Kenya dhexdeeda. sidoo kale wuxuu sheegay in doorashada soo socota marka la gaaro ay shaaca ka qaadi doonaan talaabada xigta balse haatan ay ku hawlan yihiin fulinta ballanqaadyada ay sameeyeen. Aadan Barre Ducaale ayaa bariyihii dambe si weyn loo hadal hayay in uu booska ka bixi doono isla markaana ay galaafan doonaan isbedelada sida dabayshii kaga socda Kenya ee uu samaynayo xisbiga talada haya ee Jubilee. xubnaha ka agdhow Aadan Barre Ducaale ayaa ka badbaadiyay xilka qaadista laga soo abaabulay madaxtooyada ee la doonayay in lagu sameeyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale ayaa sidoo kale xildhibaanka degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya dhacda waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay shakhsiga saddexaad ee ugu awooda badan dawladda Kenya marka laga soo tago madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. waxa uu si weyn uga dhex muuqdaa dawladda Kenya asagoo oo dhowr jeer difaacay xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo talaabooyin ay qaaday. waxaana Aadan Barre Ducaale shaqada ugu weyn ee loo arkayo inuu u hayo dawladda Kenya ay tahay ka difaacidda Kenya caqabadaha kaga yimaada dhinaca Soomaaliya iyo faragelinta ay xukuumadda Nairobi ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo uu hormuud ka yahay. waxa uuna Aadan Barre Ducaale si dhow ula shaqeeyaa oo uu xiriir leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. xiriirka Axmed Madoobe iyo Aadan Barre Ducaale ayaa sababay in xukuumadda Nairobi ay mar kale ka shaqeyso sidii uu kursiga ugu soo laaban lahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ay dawladda Kenya faa'iido ballaaran ku qabto sida ay shaaca ka qaadeen warbaahinta gudaha ee Kenya. si joogitaanka kursiga ee Aadan Barre Ducaale ayaa loo arkaa mid faa'iido weyn u ah guud ahaan Kenya waxaana siyaasiyiinta waddankaasi ay aaminsan yihiin haddii xilka laga qaado Aadan Barre Ducaale in ay fashilmi doonto siyaasadda Kenya ee ku wajahan Soomaaliya oo iminka loo arkayo ninka majaraha u haya inuu yahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu dhaliilay qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahayso maqaamka gobolka Banaadir. ugu horeyn Madaale ayaa si weyn u dhaliilay kuraasta 7 xubnood ah ee loo qoondeeyay in gobolka Banaadir uu ku yeesho golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa kale oo Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uu xusay in matalaadaasi ay tahay mid aan ku dhisnayn dadka waxa ay mudan yihiin isla markaana aan laga fiirsan. waxa uu carabaabay in arrintaasi uu u arko qalad laga gelayo dadka reer Muqdisho ayna adkaan doonto in berri la saxo sida uu hadalka u dhigay. waxa uu intaa ku daray in weli maqaamka Muqdisho kor loo sii hayo isla markaana la siyaasadeynayo xaqa shacabka Muqdisho ay u leeyihiin in ay helaan matalaad dhaba isagoo carabka ku dhuftay inay yihiin kuwa bixiya canshuurta ugu badan ee dawladda soo gasha sidoo kalena ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday. waxa uu kula taliyay dadka reer Muqdisho in ay raadsadaan xuquuqdooda iyo maqaamka gaarka ah ee ay dawladda dhexe ku leeyihiin. dawladda federaalka ayuu sheegay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir in ay ka gaabisay muddadii xilhaynta madaxweyne Farmaajo in ay ka shaqeyso helista
xaquuq rasmi ah oo ay helaan dadka gobolka Banaadir oo ka badan 3 milyan oo ruux haddana aan lahayn matalaad dhaba. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo si aada siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ay uga falceliyeen go'aanka ay soo saareen guddiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo lagu shaaciyay in gobolka Banaadir uu 7 xubnood ku yeelan doono aqalka sare sidoo kalena lagu soo xuli doono nidaamka beelaha ee 4.5. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga ayaa kulan dhinaca qadka internetka ah waxa uu la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Umar Ali Cabdilaahi waxaana kulankaasi lagaga arinsaday qaabka ay Somaliland ula tacaalayso safmarka COVID-19 iyo taageerada uu midowga Yurub ka siinayo Somaliland sidii loo xoojin lahaa ka hortagga cudurka coronavirus-ka. wakiilka midowga Yurub Ambassador Nicholas Berlanga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan garab istaaga iyo ballanqaadyada isdaba joogga ah ee ay u sameynayaan dadka reer Somaliland iyo dawladooda si looga samata bixiyo Somaliland marxaladda adag ee ka dhalatay safmarka COVID-19 oo kiisas fara badan oo la xiriira laga diiwaan geliyay deegaanada Somaliland. Berlanga ayaa sidoo kale ku amaanay guddiga ka hortagga cudurka corona ee Somaliland ee uu kal hore magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay ugu dhabar adeegayaan shaqadooda iyo talaabooyinka xigay ay u qaadeen la tacaalida fayraskan aan dawada lahayn ee caalamka oo dhan saameeyay. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Umar Ali Cabdilaahi ayaa dhankiisa uga mahad celiyay midowga Yurub sida ay u garab taagan yihiin Somaliland ugana gacan siinayaan ka hortagga iyo la tacaalida safmarka COVID-19. Umar Ali Cabdilaahi ayaa sheegay in Somaliland oo kaliya aanay u babaacdhigi karin cudurkan ay dawladaha waaweyn ee caalamku ka qeylsheen loona baahan yahay taageero iyo isgarabtaag dhab ah oo ka timaada wadamada beesha caalamka. midowga Yurubna uu hormuud u yahay dalalka Somaliland ka taageera dhinaca horumarinta caafimaadka, dhismaha mashaariicda horumarineed iyo sidoo kale garab istaaga hay'adaha amniga ee Somaliland. kulanka dhinaca internetka ku dhexmaray wasiirka caafimaadka ee Somaliland iyo sidoo kale safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska la xiriira cudurka coronavirus ee laga diiwaan geliyay deegaanada Somaliland sidoo kalena ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo guddiga Somaliland u qaabilsan ka hortagga iyo la tacaalida kiisaska cudurka COVID-19. dawladda Talyaaniga ayaa u ololeynaysa sidii Turkigu uu uga mid noqon lahaa golaha midowga Yurub kadib abaal weyn oo Turkigu uu u galay wadankaasi Talyaaniga. siyaasiyiin badan oo Talyaani ah ayaa u ololeynaya in markooda lala garab istaago Turkiga qorshahooda soo jireenka ahaa ee ku aadan in ay ku biiraan ururweynaha midowga Yurub. Turkiga oo dawladda Talyaaniga u diray gargaar caafimaad oo aan kala go' lahayn tan iyo markii uu dalka ka dilaacay cudurka COVID-19 iyo siideyntii Aisha Romano oo ah gabar Talyaani ah oo muddo ku afduubnayd gudaha Soomaaliya ayaa iminka waxa ay dawladda Talyaanigu doonaysaa in ay ku garab siiso Turkiga ka mid noqoshada midowga Yurub. xisbiga midigta dhexe ee maamula Talyaaniga ayaa ka doodaya qaabka ay u wajihi lahaayeen dooda Turkiga ee ku aadan ku biirida midowga Yurub iyaga oo sidoo kale ka baaraan degaya sidii ay qorshahan ugu qancin lahaayeen dhammaan dalalka ku midaysan golaha midowga Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa hormuud ka ah dhaqdhaqaaqyada iminka socda waxaana uu Talyaanigu sidoo kale caqabad kala kulmaya dalalka kale ee awoodda ku leh midowga Yurub kuwa oo aan la dhacsanayn isla markaana aan marnaba jeclaysan doonin qorshaha Talyaaniga ee ah in Turkigu uu ku biiro midowga Yurub. kulantiba aan wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid xisbiga hay'ad talada Somaliland ee kulmiye oo ka dalbaday hay'adaha sharci dejinta iyo cadaaladda in ay tallaabo ka qaadaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe. dawladda federaalka ee Soomaaliya oo bilowday dhaqangelinta hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaare Khayre ee arrimaha doorashooyinka iyo xisbiga nabad iyo nolol oo markii ugu horeysay isdiiwaan galiyay shirkad laga leeyahay dalka isku taga
imaaraadka carabta oo ku fashilantay shidaal baaris ay ka samaysay deegaanada Somaliland dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo soo daadisay diyaarado dagaal oo lagu soo weeraray dalkeeda hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka digay qorshe ay wadaan ee Cabdiileeya iyo xanuunka COVID-19 oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka Shiinaha iyo kiisaskii ugu badnaa oo laga diiwaan galiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shatiga duulimaadka ee ay ku imaan jireen wadanka Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo laga leeyahay wadanka Kenya dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku eedeysay mid ka mid ah labadaasi shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Air Services in ay diyaarad ay leedahay ay si sharci darro qaad ku soo galisay gudaha Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dhinaca duulimaadka sabab la xiriirta safmarka COVID-19 saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26 bishii May shixnad qaada geysay magaalada Buuhoodle iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay sido gargaar caafimaad oo lagu caawinayo dadka uu soo ritay COVID-19 iyadoo sidaasi si la mid ah dowladda Soomaaliya ay shatiga duulimaadkii ay ku imaan jirtay Soomaaliya ay kala noqotay shirkadda lagu magacaabo Silver Stone Air Services oo iyadana sidoo kale lagu eedeeyay in ay qaad sharci darro ah soo galisay gudaha wadanka Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladdu ee COVID-19 waxaana sidoo kale dowladdu ay intaasi ku dartay in diyaaradani labaad ee laga leeyahay wadanka Kenya ay 31 ka degtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay geysay shixnad qaada iyadoo hawada Soomaaliya sidoo kale ku soo gashay inay sido gargaar caafimaad waxaana dowladda Soomaaliya ay u sababaysay kala noqoshada shatigaasi ee diyaaradaha labadaasi shirkadood inay xadgudub ku sameeyeen xayiraadihii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya isla markaana badeecada qaadka oo laga joojiyay dalka ay ku soo galiyeen si sharci darro dowladda Kenya oo iyadoo iskala shirkadahan laga mamnuucay dalka Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha shatiga lagala noqday ayaan wali waxada la ka soo saarin talaabadan ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay dalka uga mamnuucday qaar ka mid ah shirkadaha dalka Kenya ee ka macaashi jiray duulimaadka ay ku yimaadaan gudaha wadanka Soomaaliya waxaana la filayaa in arintani ay noqoto mid sare u sii qaada khilaafka horeyba uga dhex jiray dalalka Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku qotomay qayb ka mid ah biyaha wadanka Soomaaliya oo ay dowladda Kenya doonayso inay boobto isla markaana dowladda Soomaaliya ay horgeysay maxkamadda cadliga ee ICJ mana ahan markii ugu horeysay ee duulimaadyada Kenya lagu eedeeyo in ay falal xadgudub ka geysteen hawada wadanka Soomaaliya iyagoo kol horena ku xadgudbay xayiraad ay dowladda Soomaaliya saartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii duulimaadyada Kenya iskaga kala goosheen xarunta wadankaasi ee Nairobi iyo sidoo kale magaalada Kismaayo xisbiga muxaafidka kulmiye ee haya talada Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen dareenkooda iyo sida ay u arkaan hadalkii dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbi mucaaridka Somaliland ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe kaasi oo hadal guux badan dhaliyay oo wax kaga sheegay siyaasiyiinta beel ka mid ah beelaha Somaliland iyadoo xisbiga kulmiyana uu hadalada Faysal Cali Waraabe ku tilmaamay kuwa meel ka dhaca isla markaana waxa laga yeelayo iyo talaabada laga qaadayaba ay u yaalaan hay'adaha sharci dejinta iyo cadaaladda ee Somaliland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muxaafidka kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo saxaafaddu wax ka weydiisay sida ay xisbi ahaan u arkaan hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay hadalkaasi u arkaan mid gaf ku ah beelaha Somaliland iyo sidoo kale qarannimada isla markaana ay dalbanayaan in Faysal Cali Waraabe sharciga la hor keeno gudoomiye ku-xigeenka oo hadlaya ayaa yiri arinta uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe shacabka reer Somaliland gudo iyo dibadba halka ay ka taagan yihiin mid la mid ayuu ka taagan yahay xisbiga talada haya ee kulmiye wax laga xumaado ayuu ahaa
ahaa hadalka ka soo yeeray gudoomiye Faysal Cali Waraabe aad ayaan uga xunnahay waxaana arintaasi talaabada laga qaadayo ay u taala golayaasha sharci dejinta iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda ee Somaliland waxaana uu sheegay inay ka sugayaan go'aan kama dambayso ay ka qaataan hadallada ka soo duulaya gudoomiye Faysal Cali Waraabe kuwaas oo iska horkeeni kara bulshada Somaliland dhawaan ayay ahayd markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid Faysal Cali Waraabe uu si adag u naqliyay siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha gobolka Sool gaar ahaan waxa uu bartilmaameedsaday gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Baashe Maxamed Faarax kuwaas oo dusha u saaray dhammaanba eedaymihii uu jeediyay intii uu ku guda jiray shir jaraa'id oo qabtay dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muxaafidka kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere waxa uu daboolka ka qaaday in dib loo dhigay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo ku beegnaa in bishan la qabto sida uu sheegay warbaahinta waxaana uu sababeeyay xanuunka COVID-19 ee ku sii fidaya deegaanada Somaliland xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay markii ugu horeysay bilowday dhaqangelinta hadalkii dhawaan ka soo yaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Xasan Cali Khayre kaas oo khuseeyay arrimaha doorashooyinka dawladda ayaa war ka soo saartay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho kaas oo diiradda lagu saaray sidii loo fulin lahaa amarkii ra'iisul wasaaraha dalka ee ahaa in xukuumaddu ay bilaabayso hirgelinta doorashada dalka taas oo ku dhacaysa waqtiga loogu talagalay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaana gudoomiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey oo ka qayb gashay shirka si ayaa sheegtay in guddigeedu uu diyaariyay tallaabooyinkii farsamo ee laga sugayay si loo hirgeliyo doorashada dalka la filayo inay ka bilaabato dabayaaqada sanadkan aynu ku guda jirnay 2020 kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ah ee loo qabo wada tashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dawladda federaalka iyo dhammaan dawlad goboleedyada si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta xubnaha guddiga ayaa si wada jira hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaara in loo gudbo arrimaha farsamo ee doorashada kadibna la soo bandhigo qorshe cad oo waqtiyeysan wasaaradaha arrimaha maaliyadda iyo gudaha ayaa iyaguna soo bandhigay qorshaha ku aadan doorashooyinka dalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhawaan qabsoomay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee dawladda hortaala xilligani ay tahay hirgelinta doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo laga hirgeliyo dalka Soomaaliya dhinaca kale xisbi siyaasadeedka ay leeyihiin xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya haatan haya taladeeda ayaa si rasmi ah looga diiwaan geliyay xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sida ila ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay warbaahinta u sheegeen xisbigani ayaa la siiyay magaca nabad iyo nolol oo ah kan ay ku caanbaxday xukuumadda haatan haysa talada ee uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana gudoomiye ku meel gaar ah looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed sida wararku ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay waxay warbaahinta la wadaageen in gudoomiyenimada Mahdi Maxamed Guuleed ay ugu wacan tahay iyadoo aysan kala cadayn qorshaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee xisbigani doorashooyinka soo socda ila wareedyo ka tirsan dawladda ayaa si warbaahinta u sheegaya in xisbigani uu wato madaxweynaha xilka haya gudoomiyennimadana uu sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya waa tahay saaxiibayaal haatan aynu dib ugu laabano wararka Somaliland shirkad laga leeyahay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta oo horay Somaliland ula gashay heshiis ku aadan dhinaca shidaal baarista ayaa haatan lagu soo waramayaa in ay ku fashilantay howlihii shidaal baarista ay ka waday deegaanada Somaliland shirkadani laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo magaceeda la yiraahdo Raag Gas ayaa bishii Maarso ee 2014 waxay Somaliland la saxiixatay heshiis ay shidaal kaga
saarayso deegaanadeeda waxayna 5 sannadood kadib bartamihii 2019 bilowday sahan heer hoosa way ka samaynaysay qaybaha galbeedka ee Somaliland gaar ahaan bloogyada SL9 hase yeeshee marka laga soo tago inaysan shirkadaasi raag gaas lahayn sharciyad ay shidaal uga soo saari karto Somaliland waqti xaadirkani ayaa haddana waxaa soo baxaya fashil soo abbaaray shirkadaasi kaasoo ku aadan howlihii ay ka waday deegaanada Somaliland shirkadani laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa horay waxa uu soo baxayay warar looga dayrinayo khibradda ay u leedahay in ay shidaal baarto iyadoona horay aysan taariikhdeeda ugu xusnayn shidaal ay ka soo saartay dalalka caalamka marka laga reebo in ay suuqgeyn ku samayso shirkadani reer Imaaraat ayaa horay heshiis ula gashay Zanzibar kaasoo ku aadanaa in ay ka samayso shidaal baarisa waxaana goor dambe heshiiskaasi uu noqday mid fashilmay waxay sidoo kale shirkadaasi ku doodaa inay howlo shidaal baarisa ka samaysay dalalka Masar iyo Malawi balse ilaa iyo haatan lama soo warin wax shidaal oo ay ka soo saartay dalalkaasi marka laga reebo inay xilfad u leedahay suuqgeynta shidaalka ay soo saaraan shirkadaha kale waxaana haatan wararku ay sheegayaan in shirkadaasi ay dib uga laabanayso heshiiskii ay la gashay Somaliland kadib markii ay weyday khibrad ku filan oo ay shidaal baaris kaga samayn karto deegaanada galbeedka ee Somaliland isbahaysiga ay hogaamiso boqortooyada Sacuudi Carabiya ee dalka Yemen ayaa soo riday 2 diyaaradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalantay gudaha dalka Yemen ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaalada wararka ee Sacuudiga ka soo xigatay afayeen u hadlay isbahaysigaasi diyaaradahani oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn isla markaana loo yaqaan droneska ayaa lagu weeraray magaalada Mushait oo ku taala xuduudda labada dal ee Yemen iyo Sacuudiga waxaana wakaalada wararka ee Sacuudiga ay ku eedeysay kooxda Xuutiyiinta in ay beegsadeen goobo dadweyne oo ay doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan tiro gantaala oo ay dadka ku waxyeeleynayaan kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa ilaa iyo haatan ka hadlin ama aan xaqiijin sheegashada dowladda Sacuudiga ee ku aadan inay soo riday 2 diyaaradood oo kuwa droonka laakiinse kooxda Xuutiyiinta ayaa dhawaan sheegtay in diyaaradaha isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka xuduudda dhaca ee Marib halkaas oo ay dagaalo ka socdaan 3 bilood ee la soo dhaafay xabadoojinta ay boqortooyada Sacuudigu ku dhawaaqday bishii Abriil ayaa dhamaatay toddobaadkii hore iyadoo uusan jirin heshiis rasmi ah kadib markii falaagada Xuutiyiintu ay diideen inay ka qayb noqdaan heshiiska laga gaarayo colaadda wadankaasi Yemen taasoo noqotay mid daba dheeraatay isla markaana ay ku hardamayaan kooxda Xuutiyiinta oo taageero ballaaran ka helaya dowladda Iiraan iyo sidoo kale isbahaysiga Hormuudka uu ka yahay Sacuudigu isla markaana ay ku jiraan dhowr dal oo kale oo kuwa Carabta kuwaasoo doonaya in ay Xuutiyiinta ka sifeeyaan dalka Yemen hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa digniin ka soo saaray fawdo ay wadaan xubno horay uga tirsanaan jiray maamulka Diilay ee deegaanka Soomaalida aan u horseedaynin dhinaca horumarka dalka Shiinahana waxaa lagu soo waramayaa inuu mar kale dib uga laba kacleeyay xanuunka COVID-19 ee markii hore iyada ka soo bilowday iyadoo haatan lagu soo waramayo in tiradii ugu badnayd ee kiisaska xanuunka COVID-19 3 maalmood gudahood la diiwaan galiyay kadib dhowr xaaladood oo laga helay dad ka soo noqday dalka Masar oo kamid ah wadamada qaaradda Afrika ee sida baan uu saameeyay Shiinaha ayaa dib u soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 ku sheegay in dowladda Mareykanku ay sumaysay xoojinteeda kadib go'aankii Washington ee ahaa inuu xiriirka u jaray ururka caafimaadka adduunka ee WHO wuxuuna sheegay in ka bixitaankaasi ay muujinayso raadraac siyaasadeed oo midnimo la'aan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u sheegay wariyaasha xilli uu socday shirka jaraa'id ee maalinlaha ah isagoo bulshada caalamka uga digay inay raacaan waxa uu ugu yeeray dhaqan xumada dowladda Mareykanka jimcihii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanku uu joojinayo xiriirkii uu la
lahaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO isagoo sheegay inay ku guuldaraysatay inay si fiican uga jawaabto xanuunka loo yaqaano COVID-19 sababtoo ah Shiinaha ayaa gacanta ku haya guud ahaanba hay-addaasi ayuu sheegay madaxweyne Trump. dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayuu xumaaday xiriirkooda dhinaca diblomaasiyadda tan iyo markii uu dunida ku faafay safmarka COVID-19 ee ka soo dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii 2019 waxaana dowladda Mareykanku ay ku eedeynaysaa dalka Shiinaha in uu xanuunkani u qariyay dunida iyo sidoo kale tuhun ku aadan in xanuunkaba lagu soo farsameeyay macadka cudurrada faafa ee magaalada Wuhan ee Wuhan Institute of Virology. inkastoo dowladda Shiinuhu ay si cad u beenisay arrinkaasi isla markaana ay sheegtay inaysan iyadu gacanteeda ku samaynin safmarkani dunida walaaqaya waxaana goor dambe dowladda Shiinuhu ay ogolaatay in hay-adda caafimaadka adduunka iyo khubaro madax bannaan ay baaritaan ku sameeyaan wararkaasi ka soo duulay dhinaca dalka Mareykanka isla markaana ay yimaadaan magaalada Wuhan. laakiin hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay dalbatay in la badiyo khubarada madaxa bannaan ee ka qayb qaadata baaritaankaasi si loo ogaado habkii uu marka hore ku soo dilaacay safmarkaasi. saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo oo ku gootiyeen nolosha ku soo qaban doonaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale weerar rogaal celisa oo ku soo qaado gobolkaasi. beesha caalamku waxay go'aan geesinimo leh ku tilmaamtay hadalkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa uu shaaciyay inay guud ahaanba hubka dhigis ku sameyn doonaan beelaha ku nool deegaanada Galmudug. madaxweyne Dani waxa uu uga digay dowladda federaalka inay si qaldan uga faa'iideysato khilaafka asaga iyo ku xigeenkiisa waxa uu na qaadacay qorshaha doorashooyinka Soomaaliya. Tigreega wadanka Itoobiya waxay ku adkaysteen mowqif ay horey u qaateen waxayna ku gacan saareen hanjabaad cusub oo uga timid ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed. wasiiro ka tirsan Somaliland waxa laga helay cudurka coronavirus asagoo faafitaanka cudurkaasina uu iminka deegaanadaasi ku sii badanayo iyo in ka badan 5,000 oo qofood oo lagu xiray dalka Mareykanka doodbaxyada ka soconaya awgees. aynu ka horeynaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo ayaa ku goodiyeen nolosha ku soo qaban doonaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale weerar rogaal celisa ku qaado gobolka Gedo. wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa isagoo abaabul ka wada duleedka Mandheera waxa ayna arintaasi dhalisay in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo heegan la geliyo. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo la hadlayay ciidamadooda ayaa u sheegay inay isku diyaariyaan wax ka qabashada weeraro ay sheegeen in la filayo in Jubbaland war kale ay ku soo qaado gobolka Gedo. saraakiisha ayaa ku goodiyeen ciidamada dowladdu ay gacan bir ku qaban doonaan amniga haddii ay isku dayaan Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo maamulkiisuna ay ka hortagi doonaan inay halkaasi soo weeraraan. sidoo kale waxay sheegeen Cabdirashiid Jaran haddii uu mar kale isku dayo inuu weerar ku soo qaado degmada Beled Xaawo inay nolosha ku soo qaban doonaan oo ciidamada dowladdu ay u diyaarsan yihiin awood ahaan iyo tactika ahaan isla markaasna la qorsheeyay qaabkii gacanta loogu dhigi lahaa. saraakiishu waxay ku goodiyeen in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo iminka si wanaagsan loo diyaariyay ayna haystaan hub iyo sidoo kale saanad ku filan oo ay ku howlgalaan. waxay sheegeen inay difaaci doonaan ammaanka guud ee gobolka Gedo iyo shacabka ku dhaqan gobolkaas inay nabadgelyo ku noolaadaan iyagoo wacad ku maray inaysan aqbali karin in mar kale deegaano ka tirsan gobolka Gedo uu ka dhaco dagaal ay Jubbaland qayb ka tahay iyagoo sheegay saraakiisha ciidamada dowladdu in intii ay ku sugnaayeen gobolka Gedo ay aslaaxiyeen gobolkaasi ayna ka dhigeen nabad buuxda. saraakiishu waxay ku baaqeen sidoo kale shacabka gobolka Gedo inay la shaqeeyaan laamaha amniga ayna ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan cid amni darro gobolkaasi ka sameynaysa. ciidamada gobolka Gedo ku sugan ee dowladda Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa loo diyaar gareeyay inay ka hortagaan weeraro la filayo in Cabdirashiid Jaran iyo ciidamo uu hogaaminayo ay ku soo qaadaan gobolka Gedo.
cabdirashiid jaran ayaa ku sugan duleedka Mandheera halkaasoo la sheegay inuu ka wado diyaargarow ku aadan weerar rogaal celis oo mar kale ku qaado deegaano ka tirsan gobolka Gedo arrintaasoo ciidamada dowladuna ay sheegeen inay ka hortagayaan dadka ku sugan gobolka Gedo waxay walwal ka muujiyeen u diyaargarowga labada dhinac ee socda taasoo sababi karta in dagaal uu halkaasi ka dhaco isla markaasna mar kale lagu dul dagaalamo dowladda ayaa maamulka madax banaan Jubbaland u sameysay gobolka Gedo arrintaas oo sii xoojisay awoodda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay gobolkaas meeshana ka saartay Axmed Madoobe iyo rag la shaqeey jiray ee ka howlgali jiray deegaanada gobolka Gedo khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa marba marka ka dambeeyay cirka isku sii shareeraya dadaalo ay ku wada hadlayeen wasiirka amniga Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ayaana fashilmay waxaana qorshahaasi mar kale keenay in wasiir jaran uu isku dayo inuu mar kale weeraro deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan Beled Xaawo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland lama oga halka ay ku dambeey doonto xiisada dib uga soo cusboonaatay gobolka Gedo iyo diyaargarowga dagaal ee halkaasi ka soconaya odayaasha dhaqankuna waxay sheegeen inaysan aqbali doonin deegaanadooda ay ku dagaalamaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo Jubbaland iyagoo ugu baaqay in la joojiyo xasaradaha dhinacyada kala duwan ee halkaasi ka soo cusboonaaday beesha caalamka ayaa go'aan geesinimo leh ku tilmaamtay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ee arrimaha doorashooyinka beesha caalamka oo dhabaalo u soo dirtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa ayaa ku bogaadiyay dadaalada ay bilaabeen ee ku aadan qabashada doorashooyinka qaranka waqtigii hore loogu aasteeyay beesha caalamku waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay in doorashooyinka la gudagalo oo diyaargarowgooda waxayna xukuumadda Xasan Cali Khayre ku tilmaamtay inay iminka qaaday tallaabo muhiim u ah xasiloonida dalka dowladaha Mareykanka midowga Yurub Turkiga iyo dowladaha kale oo safaarado ku leh magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay go'aanka uu qaatay ee ah diyaargarowga doorashooyinka iyo hirgelinta hanaan loo dhan yahay oo siyaasadeed oo wadanka ay doorasho uga dhacdo beesha caalamku ra'iisul wasaaraha waxay ku dhiirigeliyeen in la furo wada hadallo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda Soomaaliya iyo saamilayda siyaasadeed si meesha looga saaro madmadowga siyaasadeed ee madaxda Soomaalida waxay hoosta ka xariiqeen beesha caalamku ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa looga baahan yahay qorshe amni xaqiijina oo ciidamada dowladda ay hormood ka yihiin inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka waxay u ballan qaadeen ra'iisul wasaaraha in beesha caalamku ay doorkooda qaadan doonaan ayna diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan dowladda arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga miro dhali lahaa waa tallaabadii ugu horeysay oo beesha caalamku ay u aragtay mid doorashooyinka qabashadooda dhab ka dhigi karta waxayna soo dirtay dhambaal degdeg oo ay ra'iisul wasaaraha ku bogaadinaysa si doorashooyinka loo qabto ra'iisul wasaaraha ayaa bilaabay in xukuumaddiisu ay dhaqan galiso hadalkiisii waxayna kulan ay ku yeesheen villa Soomaaliya ay ku ballan qaadeen in la gudagali doono arrimaha doorashooyinka iyo diyaargarowgooda in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka ayna ka qayb galaan saamilayda siyaasadeed iyo madaxda maamul goboleedyada waa fakarka koowaad ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre arrintaasna beesha caalamku waxay u aragtay mid muhiimad gaar ah leh oo Soomaaliya xasiloonideeda iyo dimuqraadiyadeeda ka qayb qaadanaysa Xasan Cali Khayre hadalkiisa hore waxa uu soo dhaweeyay xisbiyada mucaaradka taas oo iminka sii muujinaysa kalsoonida beesha caalamka oo lagu daray inay suurtagal ka dhigayso in doorashadu waqtigeeda ay ku qabsoonto saluug badan ayaa hore ay beesha caalamka iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka kuwaas oo ku andacoonaya in dowladda ay ka gaabisay arrimihii doorashooyinka balse iminka labadaba waxay qabaan rajo ku aadan in hadalka ra'iisul wasaaruhu uu yahay biyo kama dhibcaan Xasan Cali Khayre ayaa beesha caalamka u ballan qaaday dhankiisa in dowladdu ay sii wadayso qorshooyinka ku aadan doorashooyin loo dhan yahay taasoo si dhab ah looga wada xaajoodo doorashooyinka Soomaaliya sanadka 2021 ayaa waxay buddhig u yihiin arrimaha dimuqraadiyadda waxayna ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya marba marka ka dambeysay ay kasii gudbayso marxaladda 4.5 ee u sii diyaar garoobayso doorasho loo dhan yahay oo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir uga qayb galaan
inkastoo la filayo in doorashada Soomaaliya sanadka 2021 ay noqoto qof iyo cod haddana iminka arrintaas ma muuqato waxaana suurtagal in la raadiyo xal kaleete oo loo dhan yahay oo doorashooyinka lagu qaban karo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa shaaciyay in dhammaan hubka dhigis ay ku sameyn doonaan beelaha deegaanada Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa gobolka Mudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu dadaal xoogan ugu jiro sidii maleeshiyaadka ku sugan deegaanada Galmudug hubka looga dhigi lahaa Galmudugna loo sameeyay awood ciidan oo ay ku midaysan tahay madaxweynaha ayaa sheegay inay doonayaan inay mideeyaan awoodda maamulka Galmudug isla markaasna maleeshiya beeleedyada lagu bedelo ciidamo daraawiisha iyo kuwa booliis oo maamulka Galmudug u yeesho Galmudug ayuu sheegay in hubka maleeshiyaadka gacanta ugu jira ay la wareegayso isla markaasna la dhisayo ciidamo lagu midaysan yahay si qorshooyinka amni ee Galmudug ay u noqdaan kuwa taabagala hubka dhigista beelaha ee Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa ku soo aadaysa iyadoo la bilaabay dadaalo ku aadan dhismaha ciidamo Galmudug ay yeelato kuwaas oo lagu bedelayo ciidamadii maleeshiyaadka ahaa ee hore ugu kala sugnaa gobolada Mudug iyo Galgaduud madaxweynaha Galmudug ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay taageeraan go'aanka maamulka ee ah hubka dhigista isla markaasna ay ciidamada maleeshiyaadka u soo wareejiyaan si ay uga mid noqdaan daraawiishta Galmudug madaxweynaha Galmudug ayaa tilmaamay in amniga deegaanada lagu wareejin doono ciidamo gaar ah oo ka amar qaata maamulka isla markaasna shacabka laga doonayo inay taageero xoogan muujiyaan ugu dambeyntii waxa uu xusay in kulamada looga hadlayo ka dhaadhicinta beelaha inay hubkooda iyo ciidamadooda soo wareejiyaan ay xukuumaddiisu ugu jirto dadaal iyo inay la kulanto odayaasha dhaqanka si arrintaas ay uga dhaadhacsiiso waxaana sheegay inay sii wadayaan qorshooyinka ku aadan sugitaanka amniga iyo hubka dhigista beelaha lagu sameynayo si loo helo Galmudug lagu midaysan yahay iyo ciidan amni oo dadka reer Galmudug amaankooda suga hadalka Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa ku soo aadaya iyadoo la bilaabay qorshooyinkii ugu horeysay maleeshiyaadka dawladda loogu wareejinayo si meesha looga saaro ciidamadii goonida ahaa loona helo Galmudug ciidamo ay leedahay oo ay dadka dhani ku midaysan yihiin qorshaan ayaa la ogeyn sida uga dhaqan gali doono gobolada Mudug iyo Galgaduud oo inta badan ay hubka gacantooda ku haystaan beeluhu isla markaasna ay jiraan ciidamo aan ka amar qaadan Galmudug iyo dawladda Soomaaliya oo ku kala sugan degmooyinka gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Mudug maamulka Galmudugna uu sheegay in ciidamadaas la xareyn doono hubkana ay la wareegi doonto maamulka Galmudug si loo helo Galmudug ay shacabkeeda iyo dadkeeda ku wada qanacsan yihiin iyo ciidamo amni oo sugo xuduudaha iyo amniga guud ee Galmudug dani ayaa wadigay madaxda dawladda Soomaaliya inay si qaldan uga faa'iideystaan khilaafka u dhexeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa waxaana qaadaa qorshaha doorashooyinka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo jeediyay qodbadu kaga hadlay arrimaha deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hadalhaynta aadka u weyn ee dadka Soomaaliyeed ay hadalhayaan ee ku aadan qorshaha doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka madaxda Puntland madaxweynaha ayaa dadweynaha la wadaagay xaaladda amniga guud ee deegaanada Puntland ee la sameeyay maalmihii ugu dambeysay iyo howlgaladii ciidamadu ay sameeyeen oo lagu hirgelinayo ammaan buuxa loogana hortagayay in falan amni darro oo kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland kadib qaraxii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxda dawladda Soomaaliya uga digay inay si qaldan uga faa'iideystaan khilaafka madaxda Puntland oo ku aadan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo iyagu iminka khilaaf uu ka dhaxeeyo waxa uu sheegay in dad siyaasado gaar ah ay doonayaan inay baabuuniyaan khilaaf fudud oo u dhaxeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa arrintaas oo madaxda dawladda Soomaaliya uga digay inay qorshe kale u adeegsadaan waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sidii arrintaas wax looga qaban lahaa isla markaasna uga digayo qofka seeto si qaldan wax uga raadinaya deegaanada Puntland doonayana inuu kaga faa'iideysto khilaafka iminka taagan hadalka Dani ayaa xoojinaya khilaafka loo taag waayay ee u dhaxeeya asaga iyo ku-xigeenkiisa ee wali ka ogan deegaanada Puntland
docda kaleetana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka waxa uuna sheegay in maamulka Puntland uusan aqbali doonin dhammaan hanaanka doorashada Soomaaliya haddii aan lagala sameyn madaxda Puntland. waxa uu sheegay in Puntland aysan ka qayb gali doonin hanaanka doorasho isla markaasna qorshihiisu ka socdo magaalada Muqdisho haddii aan heshiis laga gaarin siyaasadda buuxa. Dani waxa sidoo kale uu Xuseen ay ku matali kareen hanaanka doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare maadaama uu sheegay inaysan imaan doorashooyinka shacabka ayna ku yimaadeen xulasho gaar ah. ugu dambeyntii waxa ku baaqay in heshiis siyaasadeed laga gaaro hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ka hor inta aan la bilaabin qorshaha hadda socda. waxa uu sheegay madaxweyne Dani in loo baahan yahay in saamilayda siyaasadeed ay ka wada xaajooto arrimaha doorashooyinka iyo sida lagu wajahayo waxaana ku baaqay meesha laga saaro in dad gaar ah ay adeegsadaan hanaanka doorashooyinka isla markaasna taas ay ka dhalan karto cawaaqib xumo Puntland aysan ka qayb gali doonin. Dani ayaa dhowr jeer horeetay ka hor yimid qorshooyin dowladda Soomaaliya ay wadayo ku aadan doorashooyinka 2021. waxa iminka dalbanaya in Puntland ay qayb weyn ka noqoto geedi socodka siyaasadeed iyo diyaar garowga qorshaha doorashooyinka qaranka. lama oga sida madaxda dowladda Soomaaliya ay u ajiibi doonto baaqa ka yeeray madaxweynaha Puntland ee ku aadan in wada tashi lagala sameeyo arrimaha doorashooyinka. Tigreega waddanka Itoobiya ayaa ku adkaystay mowqif ay hore u qaateen oo ay doorashooyin ku qabanayaan waxayna ka hor yimaadeen kuna gacan sayreen hanjabaad uga timid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. xisbiga Tigreega Itoobiya ee loo yaqaano TPLF ayaa ku adkaystay go'aankooda inay qaban doonaan doorashooyinka iyagoo ku gacan sayray digniin iyo hanjabaad kaga timid dhanka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. bayaan ka soo baxay xisbiga Tigreega ayaa lagu sheegay in dib u dhigista ay dowladdu sameysay doorashooyinka isla markaasna aysan aqbali doonin inay ku adkaysan doonaan inay doorashooyinkooda qabsadaan. bayaanka sidoo kale waxaa lagu eedeeyay xisbiga Abiy Ahmed uu hogaamiyo ee PP taas oo ay sheegeen inuu galay dambiyo waaweyn oo ay ka mid tahay inuu ka tanaasulay madax banaanida iyo danaha amniga qaranka ee dalka uuna jabiyay dastuurka iyo sidoo kale dagaal ku qaadista kuwa la jira dastuurka sida xisbiga Tigreega. xisbiga PPA oo hogaamiye ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale waxa uu halis ku yahay amniga dalka isagoo adeegsanaya akhbaar been abuur ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xisbiga TPLF. sidoo kale waxa ay dhaliileen muuqaal laga baahiyay warbaahinta dowladda 28 May oo ahayd sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada TPLF ay galeen magaalada Addis Ababa kadibna ay dagaal 17 sano socday ay la galeen taliskii waddankaasi xukumi jiray isla markaasna ay kaga guuleysteen. muuqaalka waxa uu muujinaya xadgudubyo ka dhan xuquuqda bini'aadamka oo loo geysto maxaabiis siyaasadeed waxaana muuqaalkan uu muujiyay xasuuq ba'an oo ka dhacay waddankaasi. xisbiga Tigreega waxay ku baaqeen in guddiga doorashooyinka qaranku inay doorashooyinka ku qabtaan waqtigeeda si waafaqsan dastuurka. haddii taasi dhici weysan oo gobolka Tigreegu sii wadi doono oo diyaar garowga doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahaa. waxay sidoo kale ku eedeeyeen Abiy Ahmed inuu inkirayo xuquuqda dadku ay ku leeyihiin inay iskooda isku maamulaan iyo inuu qaadayo dagaal ka dhana gobolka. xafiiska Abiy Ahmed wali kama soo jawaabin hadalka ka soo yeeray xisbiga Tigreega ee eedaynta loogu jeediyay Abiy Ahmed ayna ku tilmaameen nin doonaya inuu dalkaasi qalalaaso uu ka abuuro iyagoo sidoo kale sheegay inay doorashooyinka qaban doonaan haddii guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya ay doorashooyinka waqtigooda ku qaban waayaan. arrimaha isjiidka khilaaf ee ka socda waddanka Itoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan dowladda Itoobiya ay sheegtay in coronavirus ay dib loogu dhigay doorashooyinka waddankaasi.
xisbiga Tigreega ayaana gaashaanka ku dhiftay qorshooyinka dawladda ee ku aadan dib u dhigista doorashooyinka waxaana sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ay doorashooyinka ku qabanayaan isla markaasna haddii ay dawladda dhexe ee Itoobiya qaban weyso ay dhankooda qaban doonaan wasiirka ka tirsan Somaliland ayaa laga helay cudurka COVID-19 ilaa iyo 2 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa laga helay COVID-19 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Somaliland sidoo kale waxaa jira wasiiro kale oo laga baaray cudurka coronavirus waana laga waayay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka Somaliland wasiirka maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa shaaciyay in laga helay cudurka COVID-19 oo ka mid yahay dadka cudurkaasi uu ku dhacay bartiisa Twitter-ka ayuu qoraal uu ku soo qoray uu ku sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay iminka balse laga helay cudurka Somaliland ayaa ka mid ah meelaha sida weyn u saameeyay cudurka COVID-19 oo asagu saameyn ku yeeshay dunida oo dhan inkastoo xukuumadda Somaliland iyo guddigeeda ka hortagga COVID-19 ay dadaal wadaan haddana cudurku marka ka dambaysa halistiisa ayuu leeyahay guddiga ka hortagga COVID-19 ee hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku waxay sheegeen inay sameeyeen qorshe lagu xakameynayo cudurka coronavirus inkastoo arrintaasi la iyo haatan aysan u muuqan mid mira dhashay dadaalada guud ahaanba Soomaalida oo dhan deegaanadeeda ka soconaya ee cudurka coronavirus ayaa hooseeya waxaana inta badan lagu tiriyaa inaysan Soomaalidu qaadan tilmaamaha caafimaad ee cudurkaasi looga hortagayo isla markaasna dadka dhaqaatiirtu ay u jeedinayaan in ka badan 5,000 oo qofood oo dadbaxyaal ayaa lagu xiray gudaha dalka Mareykanka ugu yaraan 5,600 oo qofood ayaa lagu qabtay magaalooyin ku yaala Mareykanka tan iyo markii ay bilowdeen dadbaxyada looga soo horjeedo dil loo geystay nin madow ah sida lagu sheegay warbixin ay daamacdo wakaalada wararka AB dhammaan dadkan ayaa la xiray ciidamada ilaalada qaranku waxay bilaabeen howlgal ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dadbaxyada ka soconaya gudaha Mareykanka qabashadan ayaa imaanaysa iyadoo mudaharaadayaashu ay magaalooyinka qaar ay noqdeen kuwa rabshado wata isla markaasna lagu biliqaysto goobo ganacsi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku booriyay booliska iyo gudoomiyaasha inay si xoog ah ku joojiyaan dadbaxyada magaalada Minneapolis oo lagu dilay ninka madowga ayaa lagu xiray ilaa 155 qofood qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka ayaana laga sameeyay qabqabasho tiro badan oo dad ah kuwaas oo ku dhow ilaa 800 oo laga qabtay magaalada New York iyo in ka badan 900 oo laga qabtay Los Angeles ciidamada Mareykanku waxay bilaabeen in dadka hormoodka ka dadbaxyada ay soo qabtaan si lagu joojiyo dadbaxyada oo Mareykanka oo dhan guud ahaan bacmiimay dilkan ay dadku sida weyn uga careysan yihiin waxa ku kacay askari ka tirsanaa ciidamada booliska Mareykanka arrintaasi waxay dhalisay in dadku ay ka cawdaan tilaabada ay qaadeen booliska ayagoo cadaalad dalbanayay saraakiisha ciidamada Mareykanku waxay sheegayaan in cadaalad raadinta kale iyo dadbaxyadu aysan ku salaysnayn balse ay ku hoos jiraan dad qas iyo boob ka wada gudaha Mareykanka oo goobo ganacsi iyo dukaamo ay dad lahaayeen xaaluf ka dhigay isla markaasna wadankii Mareykanka u bedelay goob biliqa iyo qas xooggan uu ka socdo Trump waxa uu sheegay in cid walba oo ka qayb qaadata xasilooni darada iyo rabshadaha ka socda Mareykanka in laamaha amnigu ay fasax u yihiin inay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan ma cadda sida lagu xakameyn karo dadbaxyada wali ka jira gudaha Mareykanka iyo sida laamaha amniga tilaabadu ay qaadeen ay u noqon doonto mid taabagal ah dawladda Kenya oo sheegtay in Soomaaliya ay cuuriyaaminayso ganacsigeeda kadib markii ay dawladda Soomaaliya ruqsadda kala noqotay diyaarada laga leeyahay dalkaasi madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash oo kulanka foolka ku yeeshay magaalada Garowe tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhexgalay Mareykanka oo laga cabsi qabo in uu ka dilaaco dagaal sokeeyay iyo madaxweyne Donald Trump oo ku goodiyay inuu militariga ku fasixi doono dibadbaxayaasha careysan madaxda maamul goboleedyada Mareykankana ku tilmaamay kuwa doqoma hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka badbaaday mooshin xilka looga qaadi rabay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir
Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo ku eedeeyay dawladda Soomaaliya in ay qalad weyn ka galayso dadka ku nool magaalada Muqdisho. Talyaaniga oo ka shaqeynaya sidii Turkigu uu uga mid noqon lahaa midowga Yurub kadib abaalkii uu u galay, iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya oo sheegay in ay Somaliland ka caawinayaan sidii lagaga hortagi lahaa cudurka COVID-19. aan ku bilaabo sidoo hordhaca warkeena idinkugu sheegay baa warbaahinta wadanka Kenya ayaa sheegtay in xukuumadda Nairobi ay ka carootay talaabadii ay dawladda Soomaaliya ruqsadda duulimaadka uga noqotay laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka Kenya oo ku xadgudbay amarro ay horay dawladda Soomaaliya wadanka ugu soo rogtay oo lagu joojiyay qaadkii ka imaan jiray gudaha wadanka Kenya ee Soomaaliya la geyn jiray. dawladda Kenya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay cuuriyaaminayso ganacsigeeda maadaama ay qaaday talaabooyin isxigxiga oo ay ku beegsanayso danaha Kenya ee Soomaaliya qaasatan diyaaradaha laga leeyahay Kenya waxa ay soo qaaday talaabadii horay loogu soo riday diyaarad laga leeyahay dalkeeda oo ay dhulka dhigeen ciidanka Itoobiya ee ka howlgala Soomaaliya iyo tii xigtay ay dawladda Soomaaliya ruqsadda duulimaadka uga noqotay ilaa 2 shirkadood oo dhinaca duulimaadka oo Kenya laga leeyahay. waxa kale oo ay xukuumadda Nairobi sheegtay in dawladda Soomaaliya ay kol hore joojisay qaadkii ka bixi jiray dalka Kenya ee loo beecgeyn jiray Soomaaliya. talaabadaasi oo ay sheegtay in lagaga goleeyahay in lagu hagardaameeyo dalka Kenya dhaqaalihiisana hoos loogu dhigo. warbaahinta Kenya oo saacadii la soo dhaafay si weyn u faaqidaysay talaabooyinka ay qaadayso dawladda Soomaaliya ee ka dhanka Kenya ayaa waxa ay ka soo xigatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya in iyaguna ay qaadi doonaan talaabooyin argudasho ah si ay kaga jawaabaan beegsiga ay Soomaaliya ku hayso Kenya. talaabooyinka macquulka ay Kenya qaadi karto ayaa waxa kamid ah in ay cunaqabatayn saarto ganacsiga Soomaalida ku nool wadanka Kenya iyo beegsashada dan walba oo Soomaaliya kaga xiran dhinaca Kenya. dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ka dhaxeeyo khilaaf soo jiitamay oo dhinaca xuduud badeedka ah iyo faragelin lagu eedeeyay xukuumadda Nairobi inay ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ka dhex qarxay dagaal kale oo dhinaca ganacsiga ah maadaama labadan dal ee uu muranku ka dhaxeeyo uu mid walba u arkayo talaabada uu qaado dhinaca kale mid isaga caqabad ku ah. dhaqaalaha wadanka Kenya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii la joojiyay jaadkii laga keeni jiray wadanka Kenya ee la geyn jiray Soomaaliya. waxa sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya duulimaadka ku taga oo u badan kuwa saldhigoodu yahay Nairobi ay la kulmeen cunaqabatayn tan iyo markii la soo rogay xayiraadda dhinaca hawada ee ka dhalatay safmarka COVID-19. lama oga sida uu xaalku isku bedeli karo iyo talaabooyinka xigay ay qaadi karto xukuumadda Nairobi si ay kaga jawaabto cunaqabataynta iyo cuuriyaaminta dhaqaale ee ay sheegtay inay kala kulmayso Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash ayaa kulanka foolka ku yeeshay magaalada Garowe tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhexgalay. wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno dhexdhexaadinta hogaamiyaasha ugu sarreeya Puntland ayaa sheegay in hadda ay bilowdeen kulamo lagu heshiisiinayo madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa kadib dadaallo ay sameeyeen isimada dhaqanka ee Puntland qaarkood. xubnaha isimada oo kaashanaya guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana mid walba laga dhageystay waxyaabaha uu ka tabanayo kan kale. Axmed Kaash ayaa Dani ku eedeeyay jabinta qodobo kamid ah dastuurka iyo la tashi la'aan uu ku kacay wuxuuna isimada u sheegay inuu u hogaansamayo baaq kasta oo ay u soo jeediyaan. Dani ayaa dhankiisa Kaash isna dusha u saaray wareegtooyin isburinaya oo uu ka soo daba saaray waxa uuna ku eedeeyay ku xadgudubka dastuurka hase yeeshee haatan waxaa dhacay kulan ay labada mas'uul markii ugu horeysay yeesheen oo ka qabsoomay madaxtooyada Puntland ee Garowe. kulanka oo ay goobjoog ahaayeen isimada ugu caansan deegaanada Puntland iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka ayaa waxa lagu faaqiday xal u helista khilaafka labada mas'uul. intii uu kulanku socday ayaa dhinac walba waxa uu soo bandhigay waxa uu ka tabanayo dhanka kale iyo qaabka ugu wanaagsan ee uu arko in xal lagaga gaari karo xiisada siyaasadeed ee haraysay dowlad goboleedka Puntland ee barihii dambe taagnayd. kulamada u dhaxeeya labada mas'uul ayaa lagu wadaa marka ay soo idlaadaan in saxaafadeed laga soo saaro isla markaasina heshiis horudhaca laga gaaro khilaafkii hore si
ay u sii socoto wada shaqaynta madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa. isimada ayaa u gogol xaaraya in la helo heshiis ay mustaqbalka dhow iyo kan dheerba ku sii wada shaqayn karaan madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash oo muddo badan uu soo noqnoqday khilaafkooda iyo isqabqabsiga dhinaca awoodda ee u dhaxeeya labada mas'uul ee u sareeya maamulka Puntland. xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay shaqada hay'adaha dowlad goboleedka Puntland waxaana sidoo kale jirtay in mas'uuliyiinta maamulka qaarkood ay la kala safteen labada mas'uul iyadoo sidoo kale xilalka laga qaaday mas'uuliyiin taageero u muujiyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Kaash sidoo kalena laga mamnuucay in uu ka hadlo warbaahinta ku hadasha afka dowlad goboleedka Puntland sida TV-ga iyo raadiyaha iyo barta Facebook ee madaxtooyada Puntland. waxaa sidoo kale xigtay in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu sameystay bar u gaar ah oo uu ku baahiyo wararkiisa hase yeeshee kol dhaweyd ayay ahayd markii hawada laga saaray bartaasi waxaana Axmed Kaash iyo xubnaha ka agdhow ay tuhunsan yihiin in talaabada lagaga saaray bartii Facebook ee u gaarka ahayd madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay ka dambeeyeen taageerayaasha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Mareykanka ayaa qarka u saaran in uu ka qarxo dagaal sokeeye xilli ay sii kordhayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee sida daadkii ugu baahay guud ahaan gobolada Mareykanka. askari ka tirsan booliiska magaalada Las Vegas ayaa kamid ahaa 2 qof oo lagu toogtay halkaasi sida warbaahintu ay sheegtay. warbixin lagu qoray wargeyska The Las Vegas Review Journal ayaa lagu sheegay in booliiska magaaladaasi ay xaqiijiyeen in askariga lagu toogtay hotel agtiis. telefishinka 8 News Now ayaa sidoo kale baahiyay in askariga uu kamid ahaa 2 qof oo goobta lagu dilay. dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxa ay noqdeen kuwa saameeyay guud ahaan dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha. waxaa dibadbaxyaashan caraysan ay bilaqaysanayaan goobaha ganacsiga oo ay si joogto ah u boobayaan iyaga oo burburinaya gawaarida iyo xarumaha dawladda dabna qabadsiinaya wax kasta oo ka hor yimaada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa haddaba ku hanjabay talaabadii ugu cuslayd oo uu ku wajahayo dibadbaxa ka socda wadanka Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga inay la tacaalaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee ku sii baahaya gobolada wadanka Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari u soo diri doono wadooyinka caasimadda Washington. wuxuu kaloo ku hanjabay sidoo kale in uu geyn doono gobolada aan awoodin in ay xakameeyaan xaaladda. hadalkan ayaa yimid toddobaad kadib markii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kadib markii askari cadaana uu jilibka luqunta ka saaray sidaasna uu ku nafbaxay. waxaa dibadbaxyada ka dhashay dilka ninkaasi madowga ay noqdeen kuwa si weyn u gilgilay Mareykanka iyo dalal ka baxsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale kuwo doqoma ah ku tilmaamay madaxda maamul goboleedyada ee wadanka Mareykanka. Donald Trump oo qadka la iska arko kulan kula yeeshay barasaabyada maamul goboleedyada Mareykanka ayuu ku canaantay sida ay kaga gaabiyeen la tacaalida dibadbaxyada rabshadaha wata. Trump oo kulanka oo idil u rogay ciyaar iyo aflagaado ayaa barasaabyada ku tilmaamay kuwa daciifa oo doqoma loona baahan yahay in ay u tafaxaytaan sidii xoog loogu maquulin lahaa rabshadaha ka socda Mareykanka iyo dadka dibadbaxa hormuudka u ah. barasaabka New York oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Trump uu doonayo in wax kasta xoog lagu xalliyo isaga oo marar badan ku goodiyay inuu ciidamada militariga adeegsan doono. wuxuuna sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u jabinayo sharciga u yaala Mareykanka uuna doonayo in qalalaaso hor leh dalkaasi laga oogo hase yeeshee aanay ka aqbali doonin. sidoo kale Trump ayuu ku dhaliilay in uu diiradda saarayo waxyaabo micno darro ah oo kaga sii daraya rabshadaha isagoo sheegay inuu iska indhatirayo sababta dadka kicisay oo wax ka qabasho u baahan iyo inay yihiin dibadbaxayaashu kuwa wax kasta laga filan karo oo xitaa afgambin kara dawladda Mareykanka ee quwadda weyn. rabshadaha Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa in ay ugu dambeyn isku rogaan isku dhac iyo dagaal sokeeye oo Mareykanka ka qarxa. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka looga qaado kadib markii
isbahaysiga haya talada dalka Kenya uu isbedelo ku sameeyay xubno ka tirsan oo jogooyin kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka iyo sanadka. Ducaale oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in sababta uu uga badbaaday xilka qaadista ay tahay in xubno ka tirsan xisbiga ay kalsooni ku qabaan shaqada uu ka hayo baarlamaanka wadanka Kenya gudihiisa. waxa uu amaanay xubnaha garab istaagay ee ka badbaadiyay mooshinka xilka lagaga xayuubin lahaa. waxa kale oo uu sheegay in kursiga uusan ku sii fadhin doonin isla markaana uu banayn doono marka uu soo afjarmo waqtigiisa. Ducaale waxa kursiga hoggaanka aqlabiyadda baarlamaanka Kenya loo dhiibay kadib doorashadii 2013 waxaana mar kale loo kordhiyay kadib doorashadii 2017 7 sano ayuu kursiga hayaa. waxa uuna sheegay in uu wax weyn bedelay oo uu ku soo kordhiyay Kenya talaabooyin dhowr ah oo loo riyaaqay. Aadan Barre Ducaale ayaa meesha ka saaray in kala qaybsanaan ay soo kala dhex gashay xisbiga haya talada wadanka Kenya ee Jubilee kaasi oo dhawaanahanba isbedelo ku dhawaaqayay waxaana ay isbedeladaasi daaqada ka saareen dad badan oo magac ku leh siyaasadda Kenya dhexdeeda. sidoo kale wuxuu sheegay in doorashada soo socota marka la gaaro ay shaaca ka qaadi doonaan talaabada xigta balse haatan ay ku hawlan yihiin fulinta ballanqaadyada ay sameeyeen. Aadan Barre Ducaale ayaa baryihii dambe si weyn loo hadal hayay in uu booska ka bixi doono isla markaana ay galaafan doonaan isbedelada sida dabayshii kaga socda Kenya ee uu sameeyo xisbiga talada haya ee Jubilee. xubnaha ka agdhow Aadan Barre Ducaale ayaa ka badbaadiyay xilka qaadista laga soo abaabulay madaxtooyada ee la doonayay in lagu sameeyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale ayaa ah sidoo kale xildhibaanka degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya dhacda waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay shakhsiga saddexaad ee ugu awoodda badan dawladda Kenya marka laga soo tago madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. waxa uu si weyn uga dhex muuqdaa dawladda Kenya asagoo oo dhowr jeer difaacay xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo talaabooyin ay qaaday. waxaana Aadan Barre Ducaale shaqada ugu weyn ee loo arkayo inuu u hayo dawladda Kenya ay tahay ka difaacidda Kenya caqabadaha kaga yimaada dhinaca Soomaaliya iyo faragelinta ay xukuumadda Nairobi ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo hormuud ka yahay. waxa uuna Aadan Barre Ducaale si dhow ula shaqeeyaa oo uu xiriir leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. xiriirka Axmed Madoobe iyo Aadan Barre Ducaale ayaa sababay in xukuumadda Nairobi ay mar kale ka shaqeyso sidii uu kursiga ugu soo laaban lahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ay dawladda Kenya faa'iido ballaaran ku qabto sida ay shaaca ka qaadeen warbaahinta gudaha ee Kenya. si joogitaanka kursiga ee Aadan Barre Ducaale ayaa loo arkaa mid faa'iido weyn u ah guud ahaan Kenya waxaana siyaasiyiinta wadankaasi ay aaminsan yihiin haddii xilka laga qaado Aadan Barre Ducaale in ay fashilmi doonto siyaasadda Kenya ee ku wajahan Soomaaliya oo iminka loo arkayo ninka majaraha u haya inuu yahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu dhaliilay qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahayso maqaamka gobolka Banaadir. ugu horeyn Madaale ayaa si weyn u dhaliilay kuraasta 7 xubnood ah ee loo qoondeeyay in gobolka Banaadir uu ku yeesho golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa kale oo Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uu xusay in matalaadaasi ay tahay mid aan ku dhisnayn dadka waxa ay mudan yihiin isla markaana aan laga fiirsan. waxa uu carabaabay in arrintaasi uu u arko qalad laga gelayo dadka reer Muqdisho ayna adkaan doonto in berri la saxo sida uu hadalka u dhigay. waxa uu intaa ku daray in weli maqaamka Muqdisho kor loo sii hayo isla markaana la siyaasadeynayo xaqa shacabka Muqdisho ay u leeyihiin in ay helaan matalaad dhaba isagoo carabka ku dhuftay inay yihiin kuwa bixiya canshuurta ugu badan ee dawladda soo gasha sidoo kalena ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday. waxa uu kula taliyay dadka reer Muqdisho in ay raadsadaan xuquuqdooda iyo maqaamka gaarka ah ee ay dawladda dhexe ku leeyihiin. dawladda federaalka ayuu sheegay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir in ay ka gaabisay muddadii xilhaynta madaxweyne Farmaajo in ay ka shaqeyso helista
xaquuq rasmi ah oo ay helaan dadka gobolka Banaadir oo ka badan 3 milyan oo ruux haddana aan lahayn matalaad dhaba. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo si aada siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ay uga falceliyeen go'aanka ay soo saareen guddiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo lagu shaaciyay in gobolka Banaadir uu 7 xubnood ku yeelan doono aqalka sare sidoo kalena lagu soo xuli doono nidaamka beelaha ee 4.5. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga ayaa kulan dhinaca qadka internetka ah waxa uu la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Umar Ali Cabdilaahi waxaana kulankaasi lagaga arrinsaday qaabka ay Somaliland ula tacaalayso safmarka COVID-19 iyo taageerada uu midowga Yurub ka siinayo Somaliland sidii loo xoojin lahaa ka hortagga cudurka coronavirus-ka. wakiilka midowga Yurub Ambassador Nicholas Berlanga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan garab istaaga iyo ballanqaadyada isdaba joogga ah ee ay u sameynayaan dadka reer Somaliland iyo dawladooda si looga samata bixiyo Somaliland marxaladda adag ee ka dhalatay safmarka COVID-19 oo kiisas fara badan oo la xiriira laga diiwaan geliyay deegaanada Somaliland. Berlanga ayaa sidoo kale ku amaanay guddiga ka hortagga cudurka corona ee Somaliland ee uu kal hore magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay ugu dhabar adeegayaan shaqadooda iyo talaabooyinka xigay ay u qaadeen la tacaalida fayraskan aan dawada lahayn ee caalamka oo dhan saameeyay. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Umar Ali Cabdilaahi ayaa dhankiisa uga mahad celiyay midowga Yurub sida ay u garab taagan yihiin Somaliland ugana gacan siinayaan ka hortagga iyo la tacaalida safmarka COVID-19. Umar Ali Cabdilaahi ayaa sheegay in Somaliland oo kaliya aanay u babaacdhigi karin cudurkan ay dawladaha waaweyn ee caalamku ka qeylsheen loona baahan yahay taageero iyo isgarab dhab ah oo ka timaada wadamada beesha caalamka. midowga Yurubna uu hormuud u yahay dalalka Somaliland ka taageera dhinaca horumarinta caafimaadka, dhismaha mashaariicda horumarineed iyo sidoo kale garab istaaga hay'adaha amniga ee Somaliland. kulanka dhinaca internetka ku dhexmaray wasiirka caafimaadka ee Somaliland iyo sidoo kale safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska la xiriira cudurka coronavirus ee laga diiwaan geliyay deegaanada Somaliland sidoo kalena ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo guddiga Somaliland u qaabilsan ka hortagga iyo la tacaalida kiisaska cudurka COVID-19. dawladda Talyaaniga ayaa u ololeynaysa sidii Turkigu uu uga mid noqon lahaa golaha midowga Yurub kadib abaal weyn oo Turkigu uu u galay wadankaasi Talyaaniga. siyaasiyiin badan oo Talyaani ah ayaa u ololeynaya in markooda lala garab istaago Turkiga qorshahooda soo jireenka ahaa ee ku aadan in ay ku biiraan ururweynaha midowga Yurub. Turkiga oo dawladda Talyaaniga u diray gargaar caafimaad oo aan kala go' lahayn tan iyo markii uu dalka ka dilaacay cudurka COVID-19 iyo siideyntii Aisha Romano oo ah gabar Talyaani ah oo muddo ku afduubnayd gudaha Soomaaliya ayaa iminka waxa ay dawladda Talyaanigu doonaysaa in ay ku garab siiso Turkiga ka mid noqoshada midowga Yurub. xisbiga midigta dhexe ee maamula Talyaaniga ayaa ka doodaya qaabka ay u wajihi lahaayeen dooda Turkiga ee ku aadan ku biirida midowga Yurub iyaga oo sidoo kale ka baaraan degaya sidii ay qorshahan ugu qancin lahaayeen dhammaan dalalka ku midaysan golaha midowga Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa hormuud ka ah dhaqdhaqaaqyada iminka socda waxaana uu Talyaanigu sidoo kale caqabad kala kulmaya dalalka kale ee awoodda ku leh midowga Yurub kuwa oo aan la dhacsanayn isla markaana aan marnaba jeclaysan doonin qorshaha Talyaaniga ee ah in Turkigu uu ku biiro midowga Yurub. kulantima ana wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid xisbiga hay'ad talada Somaliland ee kulmiye oo ka dalbaday hay'adaha sharci dejinta iyo cadaaladda in ay tallaabo ka qaadaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe. dawladda federaalka ee Soomaaliya oo bilowday dhaqangelinta hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaare Khayre ee arrimaha doorashooyinka iyo xisbiga nabad iyo nolol oo markii ugu horeysay isdiiwaan galiyay shirkad laga leeyahay dalka isku taga
imaaraadka carabta oo ku fashilantay shidaal baaris ay ka samaysay deegaanada Somaliland dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo soo daadisay diyaarado dagaal oo lagu soo weeraray dalkeeda hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka digay qorshe ay wadaan ee Cabdiilaya iyo xanuunka COVID-19 oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka Shiinaha iyo kiisaskii ugu badnaa oo laga diiwaan galiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shatiga duulimaadka ee ay ku imaan jireen wadanka Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo laga leeyahay wadanka Kenya dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku eedeysay mid ka mid ah labadaasi shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Air Services in ay diyaarad ay leedahay ay si sharci darro qaad ku soo galisay gudaha Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dhinaca duulimaadka sabab la xiriirta safmarka COVID-19 saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26 bishii May shixnad qaada geysay magaalada Buuhoodle iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay sido gargaar caafimaad oo lagu caawinayo dadka uu soo ritay COVID-19 iyadoo sidaas si la mid ah dowladda Soomaaliya ay shatiga duulimaadkii ay ku imaan jirtay Soomaaliya ay kala noqotay shirkadda lagu magacaabo Silver Stone Air